13 November 2017 doorashadii Somaliland sidii ay u qabsoontay ma waxay u dhacday si sax ah sidii ay ku andacoonayaan xisbiga talada haya dadka qaarkood iyo kuwa kamida international observerska mise waxay ahayd doorasho boob iyo ku shubasho u dhacday sida ay iyaguna qabaan dadka qaarkood iyo mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani 22 degmo doorasho ee dalka mid ayaanu cagta u soo dhignay si aan gunta u soo taabano ayaanu u kabaylan ma aha waxyaabaha aynu ku beegsanaynaa barnaamijkeena isolating incidents xaalado gaar ah balse guud ahaan waxaan soo taabanaynaa xaqiiqada sax iyo khalad ma dhaba inay jireen waraaqihii codbixinta qaarkood oo habeennimadii doorashada ka baxay gacanta komishanka gobolada oo laga codeeyay goobo fara badan sideese loogu codeeyay ma jirtaa kaadhadhkii doorashada in la duplicate gareeyay sidayse u dhacday qof aan la diiwaan galin oo aan laga qaadin faraha indhaha iyo wejiga midnaba in la diiwaan galiyay kadibna kaadhkiisii codbixinta la siiyay kuna codeeyay maxaase ka jira inay komishanka gacantooda dib uga bixeen qaar kamida kaadhadhkii xilligii kaadhar qaybinta dadkii lahaa u iman waayeen ee dib komishanku ula soo noqday ma dhaba in doorashada horteed xogtii codbixiyuhu komishanka dibadda uga baxday maxaa bedelay qorshihii diiwaangelinta looga gol lahaa ee iriska kaasi oo kala saarayay codbixiyaha sida saxda ah kaarka codbixinta ku qaatay midka aan kaarka lahayn kan sifaha aan sharciga ahayn ku qaatay kaarka codbixiyaha iyo ku sita kaar macmalaba haddii se la bedelay qaabkaasi maxaa komishanku warbaahinta maxalliga ah barnaamijyadii ay ka qabatay ugu cadeeyay in doorashada lagu galayo habkii iriska ee kala saarayay codbixiyaha saxda iyo kan kale iyagoo isbarbar dhigaya baasaboorada dunida lagu galo iyo kaarkaas ina isku sifo marayaan qalabku waa qalabka aanu idin sheegno adduunka meel lagu isticmaalay ma jirto baanu idin niri waa wadankii ugu horeeyay beenu nahay ee isticmaala kan iriska ama bu'da indhaha la isticmaalayo waxaanu kaga cararaynaa waxa weeye in aan ayan dib ugu noqon dadku oo aanay noqon wixii la dhici jiray la iska footeen jiray fartii la iska masixi jiray ayan dib dambe u dhicin baan u samaynay waa ogsitiin oo dadkiina badan waxaan leeyahay qurba joogtiin anigu markaan ku noqdo ingiriiska oo tago baasaboorka aan sito meel baan geliyaa baasaboorka waxaana eegaa indhaha ayaan saas u eegaa dhag layn casur gelina soo baxayo oo aqbilayo oranaya waad qaado baasaboorka oo dhaaf bir halkan aad joogto automatically iga furmaysa haddii qof kale baasaboorkayga qaato dee way qabanaysaa dhowr arrimood baan hor yiilay oo komishanka hor yiilay oo la kala xushay 3-4 bay ahaayeen baan u malaynayaa marka kan ayaa la xushay sababta loo xushayna waa maxay inuu yahay mid aan la khiyaamayn karayn inuu yahay sida komishanku ku andacoonayaan oo ah in dadka bu'da indhaha laga sawirayay oo doorashada lagu galay nidaamka diiwaangelinta iriska goobaha codbixintana qalab xaqiijineed yaaleen haddii ay sax tahay taasi sidee bay ku dhacday in adigoo jooga tusaale ahaan London ama dalka gudihiisa meel kamida isla markaasina aan bu'da indhaha iska daayay fartaada la sawirin in sawirkiiyo magacaaga ood ku dirtay WhatsApp ama email lagu sameeyo kaarkaagii codbixinta kadib aad ku codayso cadaymo marag u ah ayaanu adiin haynaa bismillaah aniga waxay igu dhacday maalmihii doorashada inaanan kaar qaadanin ama aanan jaanis u helin laakiin inaan komishineer oo ka tirsanaa qoladii komishanka ayaa waxa uu sheegay inuu kaarka ii sameyn karayo aniga oon tagin goobta laga qaadanayo kaararka wuxuu igu yiri waxaad soo dirtaa sawirkaaga oo WhatsApp-ka ku soo dir anigu waxaan joogay Burco sawirkaygii waan diray maalmo kadib wuxuu ii sheegay inuu sawirkayga inuu ii dhameystiran yahay kaarkii oo magacaygii inta dambe uu buuqalday laakiin magacayga hore uu saxay kaarkiina sidii baan ku soo qaatay waana sidii waan ku codeeyay anigoon tagin meesha xogaha goob joogayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba shirkadaha waraaqaha ururada aan dawliga ahayn doorka ciidamada kala duwan ee dalku ay ku lahaayeen kulamo kala duwan iyo waraysiyo komishanka iyo su'aal kasto aad xaq hore ku soo sheegnay barnaamijka ayay idinku wada daawan doontaa waxa uu helin doona intaas arrimo la xidhiidha sababihii shirkadaha isgaadhsiintu khadka uga saareen ama u xanibeen adeegsiga social media baraha bulshada yaa sababta tallaabadaasi lahaa komishanku muxuu tallaabadan uga jeeday beesha caalamku se waraaqihii ay u soo dirtay komishanka doorashooyinka
ee ka dhanka ahaa xanibaada social media maxaa looga jawaabay ma doorashadii dalka ka dhacday ayaa bulshada Soomaaliland kala qaybisay oo magacyo iyo waaxyo u kala saartay mise waxay ahayd kala qaybintoodu mid looga gol lahaa in lagu dado ama lagu hoos qarinayo siro halistooda leh oo ay khasab ahayd in lagu tallaabsado si bulshadu u liqdo natiijadii doorashadaasi ka soo baxday waa sidee xaqiiqada dhabta ah ee xisbiga talada haya ku hantiyay hogaaminta dalka sidee wax u dhaceen ahmiyadda koowaad ayaanu siinaynaa xaqiijinta waxa runtu tahay annagoo ka madax bannaanaysiinana inaanay marlebe barnaamijka baadi goobraad ku yeelan isdiidooyinka dhinacyada iyo aragtiyaha cid kastaaba gaarkeeda u aaminsan tahay cidda aan iyagu liqin natiijadaasi oo ah xisbiga wadani waxaa jira dhowaan qoraal dhowr iyo 10 beej ka kooban ay u gudbiyeen madaxweynaha haatan talada haya ee ku soo baxay doorashadaasi iyo gudida doorashooyinka qoraalkaasi oo xambaarsan sababo tiro badan oo xisbigaasi u cusqanayo kalsooni kala laabashada komishanka dhinacyada kale ee asxaabta siyaasaddu lama qabaan aragtida wadani oo iyana toodu waa u gaar waa sababaha ay lagaba maarmaanka u tahay in baadigoo bannaanka keeno xaqiiqadu waxay tahay dabagalka iyagoo waxaanu ka bilownay cidda ugu dhow ee laga heli karo xogta dhexdhexaadka ah oo ah shaqaalaha komishanka doorashooyinka ee iyagu mas'uulka ka ahaa sanaaduuqdaas annagoo ugu horrayn ka duulayna tuhunka ah inaan wax tababar ah aanay helin 50% shaqaalaha komishanka ka socday ee sanaaduuqda mas'uulka ka ahaa isla markaasina ay ku jiraan shaqaale dawladeed dad reer baadiye ah iyo dhalinyaro aan waxba baran kuwaasi oo haddii aynu si kale u sheegnano noqonaya 4 qof ee koob kasta oo codbixineed komishanka uga hawlgelayay inaan laba ka mid ah iska daa inay heleen tababar ah iyo in la dhaariyay xataa aan komishanku guud ahaan wax shuqul ah ku lahayn xubnahani waxay ahaayeen kuwii ugu mudnaa ee bedelay habkii xaqiijinaya islahaanshaha qofka iyo kaadhkiisa waana hubiyaha kaadhka oo ah gudoomiye ku-xigeenka sanduuqa iyo qofka calaamadinayay ruuxa codkiisa dhiibta subaxii taani gaadhin ba habeennimadii annagoo bulxaar joogna aniga gudoomiye waxaan isweydiinay inay 2 xubnood naga maqan yihiin markaas weydiinay 2 xubnood naga maqan yihiin komishinkii la hadal baan ku wada garaac aan garaacna la hadalo 2 xubnood keeda ahaa 2 xubnood naga maqnaa waxay ahaayeen goob jooga calaamadiyaha iyo hubiye labadaas way naga maqnaayeen marka arkay labadaas inay naga maqan yihiin labadaas naga maqan labadii oo la helay mooyay shaqada u galnaa baan ku wari dadna komishinkii garaac baa ku wari markaan garaacnayna shaqadii la qabsada baan lagu yiri magaras subaxii shaqadii waa la bilaabay nimankan makhaayadooda tagnay ee magaalada deganaayeen wax ka iibsanay dukaamada ku haystay ayaa subaxii noo soo shaqo tagay midna hubiyo ka noqday midna calaamadiyo ka noqday 10kii subaxnimo markii ay gaadhayna qaylada ayaa qof walba wuxuu yiri sawirkii waa lagu codeeyo sanduuqaana waa tagay sanduuqaana waa tagay markaan isku eegnay kaarkiisa sanduuqa iyagan yihiin dadkiina magacoodiyo lagu codeeyay baan aragnaa magaras markaasaan ogaanay inay labada nin waxa looga reebay ay tahay musuqmaasuq inuu jiro magaras oo qof walba la doonayay inay sii daayaan oo galu calaamadiyo magaras dadna saasi ku dhacday markuu buuqi batay iyadoo shantii iyo barkiiba gaadhin baan xidhnay sanaaduuqdii meesha lagu xidhay magaras ee qof walba meesha magacaygu waa la calaamaday raggii magacyadooda la calaamadiyay waa xayo wii joogan oo marxaati adoon waa la joogan oo odayaal waaweyn waliba wax garada war la heliyaaba tale la heliye si ay bishu hortayada u timaado ayaanu u xadhka xidhanay bulaxaar dukaankii jaamac ayaanu tagnay waxaana loo sheegay inaanu ka heli karno xafiiska wasaaradda waxbarashada ee degmada bulaxaar jaadiriye kamida mas'uuliyiintii wasaaradda waxbarashada degmada bulaxaar dalka doorasho ka dhacday doorasho runtii xasaasiyad la ka dhacday bulaxaar seebay uga dhacday doorashadaas doorasho bismillaahir rahmaanir rahiim si fiican bay uga dhacday oo nabadgelyada dadkuna waqtiga uu ka maqnaa degmada wuxuu ku maqnaa oogada
sidaa awgeed dadkii markaa kaadhaka qaatee codbixinta ka codeynaya halkan gawaadhaa lagu soo guray dadka markaa halkan bay ka codeeyeen si fiican bay uga dhacday waa gartay maxay tahay doorashada adigu waxaad ku sugnayd waqtigii doorashadu dhacdaysay gudaha Bulaxaar markii doorashadu dhacaysay waxaan ku sugnaa degmada Bulaxaar gaar ahaan iskuulka dugsigan dhexe Bulaxaar degmada waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka sanduuqaba goobta sanduuqa gudoomiye ku-xigeenkiisa baad ahayd adiga ma halka lagaaga daray imse xubnood baad ahaydeen commission halkan baa lagaga daray aniga xubnuhu waxay kala ahaayeen aduu 3 qaybood bay kala ahaayeen aduu askarta mooyaane qayb markaa waxay ahayd hubiye waxa la yiraahdo hubiye waa gudoomiye ku-xigeenka kaarka hor u taagay oo qofku inuu kaarka meeshan goobtan ka codeeyay ayuu hubinayay sidaa awgeed deetana labada qaybood kalena gudaha laba qaybood kalena way jireen kadib adigu waxaad adiga mooyaane hubiyaad ahayd adigu hubiya halka laga qaatay habeenkii halka liimaa lagu qaatay maan ka tegin anigu degmada kama tegin kadib hubiya lagu qaatay hubiyu waa ninka kaarka eegaya adigu maadaama halka ku sugnayd wax tababara maad helin fursad lagu ma siin maan helin wax fursada tababar maan helin laakiin kaarka in goobta laga qaatay sawirka iyo inay isleeyihiin wajiga qofku iyo kaarka un baan eegay waxa shaqaalaha commissionka gudoomiyihii sanduuqa watay ayaa ku qoray adiga may ka hor intaanay markaa iman sanduuqu meesha hadii jara tinkeeda cidhiidhiyo lama heli karo u badan tahay notification badan baa soo galay deetana waan ku celiyay deetana waxay guraan waa gobolka saaxil waxaad ku qoran tahay gudoomiye ku-xigeen sanduuqa markaa halkaasaad ku qornaanaysaa markaa laba macallin aniga iyo maamulaha ayaa bartan ay noogu yimaadeen markaa wax tababaran looma qaban barnaamij ma shaqo galin sama loo shaqo galin waxaan tababarnay commission ka mamnuuc lughaye ayaanu iyana dib ugu noqonay waxaanuna la kulannay qaybaha bulshada iyagoo nala wadaagay waayeelku qaabkii ay doorashada uga dhacday degmada waxay ka dareen celiyeen dhacdooyin ay ka mid tahay dad aan dalka u dhalan oo kaadhan aanay lahayn kaga codeeya degmada ku laba celin codbixineed saraakiil ciidan oo ka qayb noqday fududaynta qaababkaasi loo codeeyey saraakiishaasi oo ay sheegeen in doorashada kadib iyana la dallacsiiyey qaarkood kii 2010 iyo kuwii 2017 in lagaga wada codeeyo laga wada isticmaalo dareenkii nisada arkaysa adeer Cabdirasaaq waxaan qabaa anu fikirkaygu anu Cabdi Saciid xan waxaan qabaa waxa uu dhacdooyinku badan yihiin way jirtay taas good waxyaalaha imika yaclo dadku majoorti ugu shaqeeyaba waa cayrka jira qaskaas kan diirkan iska qaadi jiray uu jiray taas ugu dalacsiiyey oo gaashaanle laga dhigay markii hore kabtan buu ahaa maanad ogeyn xag rabbina inay dembi ka tahay xagga sharcigana ay dembi ka tahay inaad kaadhaanad lahayn 2 jeer ku codayso waxaan ka hadlaynaa xaqiiqa ahaan cidii maanta nama haysato cidii waa wax tegey weeyaan waa warayso cid maanta loo xidhaya amba loo qabsanaya ma jiro way dhacdo way dhamaatay de maadaamay dhamaatay wixii ka maroonaaba waa dembiti ilaan maroonaaba waa dembiti marka waxa weeyaan wixii aan xaqiiqada ahayd baan ka warhaynay baan kuu sheegaynaa kulli anagu waxaan u aragnaa dib wixii halkaa ka dhacay in ku mashquuleeyay waayo dadku waxa weeye anagu foodka dadku ku ridaayay way ku ridayeen muxuu ahaa doorashooyin badan baa soo dhow de waxa weeye tii oo kale inay dhacdo xaq ma hadda waxaa la sheegay dhowr jeer laba noqod dhacay oo qaar 7 jeer codeeyay bal ku soo dhawow wixii aad adigu uga soo joogtay lagu hayay dhowr meelood iyaan anu ku arkay iyadoo lagu laba noqonayo oo dadkii kulkii hore codeeyay uu farti mayrayo uu haddana codeynayo
يا هذا وضع وضع قرينه لذلك وضع قرينه معها هذا وضع قرينه يا اسكت جوجين قرينه فرت هو ما يدري هو ما يدري بعد أنا كعريه كار كله تجي ماشي واقع marka waxa weeyaan way fara badnayd ya imika tiradoodii dama hayo dad badan buraha isay wuxuu dhacay qoladani waxa wadatay qoladan marka way dalacday aan leenahay ya umba hawsha nagutay saraakiisha dawladda saraakiisha dawladda waka waa ciidan kan la dalacsiiyay qolada umba arrinka wadatay kaararka u qaybinay si xaq komishinkaasi wuxuu qaaday anagu runta ka sheegay uma qaadin wuxuuna ugu qaadin sidii ay ahayd uma wadin badii ee runta ahayd kumanaan kun oo kaadh ayaa gobolada dalka ay ku qaybiyeen madax sarsare mas'uuliyiin iyo ganacsato dhammaantoodana siyaasiya iyo kuwa dhaqaaleba taabacsan xisbiga kulmiye kaadharkaas oo qaarkood macmal ahaayeen kuwa kalena aanu xaqiijinay inay ahaayeen kuwii ka soo noqday dadkii abaaruhu ku dhifteen ujeedada biometriga loo sameeyaa ma aha oo kaliya in diiwaangelinta lagu sameeyo doorashadana inuu xalaalnimadeeda iyo xorriyaddeeda suga weey sidoo sugaya qofku markuu yimaado maalinta doorashada ma aha maalinta diiwaangelinta ma maalinta doorashada qofku markuu yimaado goobta doorashada talaabooyinka koowaad ee la qaaday markuu kuyuga soo galo waxa weeye horta in la xaqiijiyo qofka kanu inuu yahay qof xaq u leh inuu codeeyo qofka kaarkan la inuu yahay kaarku sitaariin saxiix oo intaynu wadaynay intaas marka qof markuu soo galo ama fartuu saaraya meel ama isha kaarkana uu xaqiijinay bahalkaas inuu kaarkani macmal yahay oo dibad meelaha laga samaystay inuu ku saxayay taas meesha way ka baxday waxaana dhacday 100,000 oo kaar in ka badan oo fake ayaa wadanka laga codeeyay boorama nasra waxay ka mid tahay shaqaalihii kormeerayaasha ka ahaa doorashada ee nooga waramay dhacdooyin ay u soo taagnaayeen kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dad ku codaynaya kaadharkii doorashadii 2010 kaadharka dhalashada kuwa aan dadkii lahaaba sidan dhacdooyinka haweenaydani la kulantay ayay iyada lafteedu tijaabisay si ay bal u xaqiijiso in waxa codka lagu dhiibanayaa yahay kaadhkii codbixinta ee saxda ahaa waxaanay ku codaysay kaadhkeedii dhalashada sidoo kale waxay ku codaysay kaadhkeedii codbixiyaha loogu talagalay dad badan oo imika anagu halkan aanu ka sheegaynin baa waxa jira intay kaadh bisideen way qaybinayeen kuwada dhexda ku qaybin bay telefoon baa lagu qaybinay markaan inaan u kuwa qolo isku dana way noo soo roobowday laakiin dadkii ayaan qabanay wajigiyo markaan isku eegno qofka ismalaha dabadeedna markaan aan kaarkan ka keenteen way naga gaabsanayeen inay noo sheegaan way naga dhaqaaqeen kaarkan way naga qaadanayeen waxaan u koor galnay in dadku soo noqonayaan markay galaan iyagoo calaalaya dadkaasi waxay ka cabanayeen in kaararka gacanta ay ku haystaan magacoogina la qaaday oo la saxay dabadeedna la soo celiyo lagu yiri waa la qaaday kaarkaaga waad qaadatay bax lagu yiri oo dadkii leeyihiin aaway taasina waxa keentay wax adjustment garaysan oo laga sii shaqeeyay baa lagu codeeyay aniga laftarkayga isku day labada kaar kaasi wax weeyaa kii aqoonsi kaasina waa kii codka waxaan kaga codeeyay sheekhiis meesha la yiraahdo kaasina waxaan ka qaatay jegne waxaan ka codeeyay Umar bin Khadaab ku codeeyay iyana waxay ka mid tahay taasi xeerarka la baalmaray ama la jabiyay sida aad maqraatigaasi ku daawanayseen waxa lagu codeeyay kaararkii dawladaha hoose kaadhar laga qaatay goob kale oo lagaga codeeyay goob aan iyana goobtii ahayn iyana waa xaqiiqooyin kale oo ka mid ah shuruucda doorashooyinka ee la jabiyay ama la baalmaray tani waa sheekadii waxay yihiin cadaymo nool iyo maqraatiyo horyimi kamaradaha baadi goobkana warbixiyay waxyaabihii ay soo joogeen waxay yihiin dhacdooyin argagax geliye iska daacid kale bahdayada baadi goob arrimaha khuseeya doorashada maaha inta mucaaradku ku andacoonayaan oo keliya bal laakiin
dhacdooyinka dhan ah dhexdhexaadnimada guddida doorashooyinka oo xaaraantinimaynaya doorashadaas ayaa qayb ka ah kuwaasi oo aan ku koobnayn goob hebla iyo goob hebla balse badanka goob doorashooyinka dalku ay ka sinaayeen kole goobtayda abaaro 10kii ilaa iyo 7dii markii la furay adigu rabashkeedu iska badnaa waxaa dhacday shaqaale kale oo xisbiga ka socday oo aan hayn dadka codaynaya ayaa iyana meesha aad ugu tiro badnaa oo ay dhikaadhisitay oo goobteeda joogay askarta ilaalinaysay goobta iyagu ma ahayn askar la soo siiyay tababar cidda ay gudaa u sii daynayaan dee xaqa u leh inuu galo ama kaarhka uu ku galo eegaya inanka oday goobeedka ahaa ee meesha fadhiyey laftarkiisu gudoomiye ku-xigeenka ahaa dee waa nin degaankii ah oo xaafadii deela ka soo jeeda marka dee markuu qof soo dhaafayo dee inaadeerkii ama dee xisbigiisa ha ahaado dee astaantii halkan ay suranta isagu ha ka istaajin maayo marka dee meeshii jam bay noqotay marka dee kormeerayaal fara badan oo xisbiga ka socda la soo geliyey marka anigu dadkii aan nacam oo dee markaa حتى رجع سيره هسوا هنشري بمشتوي أنا ها سكو دي أفضافنا ولي هنشبي دبت ولي جس هنشبي طاقة دي جدا بس ولي هنشبي لكن أنا واحد دق ما دقي وحنا هاتي شقالة قرن مركا وحنا ماشي كمريت شقالة قرن بوها ما نتاتي قرن كي كان شقيني أصلا شيء تدكي أنا شقيني هي تدكي ماشي دي سوق لي وهرت رونا هنتي أنكلي قرن واعي qofkii hadeer aan u baari lahaa kaarka waa in chance aan de u hela sanduuqina de waan ilaashanaya haddii de waraaq khaldan ku dhacdo de ninka xidhan waan marka de waxaan arkay inaanay suurto gelin meesha de in codayn ka dhacdo khalkhal dee badan oo iman kara awgii kadib inantii ayaan ku weli de waad aragtaa waxaa meesha ka socda sidan haddii aynu de kusii wadnona de inaga xirmayno hadii waraaqa sanduuq de wax waraaq khaldan ku dhacdo dabadeed inantii adigu waxaan isla afgaranay inta shaqadii aan ma horta shaqada hakino dabadeed shaqadii baan yara hakina askarta waxaan ku nicilnaa soo dayn shaqada waan yara hakinayna marka wixii alaabtii aan ku shaqaynaynay waa la yara murna marka alaabtii aan ku shaqaynay waan yara xiraysanay din sanduuqiiba way iga qarsoomay marka ana dee shirqool baan sirtay intaasoo dee sanduuq wax ku dhaca marka miiskan ku shaqaynay baan dhakada uga baxa bahalihii iyo codayntana intaan u dhiibay dee waraaqdii la jarayay lagu ridayay buuggii shaambadiinana haysto dan sidaa markay dhacday inantii baan ku yiri komishinkii garaac xaaladaasaa jirta ku dheh inantii way garaacday adugu abaar 9kii iyo xoogaa bay ahayd 10kii iyo adugu waxla banalooyin gudoomiyaha komishinka iyo xoghayaha guud Cabdiqaadir Imaan Salame iyo Saciid Cali Muuse banalooyin oo wada 10 gaari oo aaraadiya goobtaydii waa la soo galay gudoomiyihii banalooyin maxaa dhacay buu yiri xaalta saasaa dhacday dabeedna wuxuu yiri maxaad ka cabanaysaa markaas ku inta hadda qof ee qolkan ku jirta aan shaqaalaha ahayn baltu sakaarkooda dheh wali qof walba markuu takaarkiisii sidaa yili laba islaamood maaha oo codeynayay markaa wixii kale waxay noqdeen wakiilo ka socda xisbiga kulmiye dibadda aniga laga saaray wadani inankii meesha u fadhiyo nin aada u yara da'weyn buu ahaa oo meelaha qurbaa ka yimid waxaa lagu yiri ninka foodada meesha wada waa adiga isna waa la kaxiyey marka waa la soo bedelay oo inan baa lagu soo bedelay adugu abaar qadar yar ka bacdi gudoomiye Cabdiqaadir Imaan saas iyadoo jirto saa loo shaqaynaya ayaa waxaa la keenay inan la yiri
waa shaqaalihii reserve-ka ahaa ee ka tirsanaa komishanka qaranka waxaa laga yidhi adigu iska fadhiiso inantana shaqaynaysa dee waxaan ku yidhi anigu shaqada masaafada intaa leeg baan usoo jaro meeshana anaa ka mas-uula haddii aad aniga hadda igala wareegayso kaadhkii iyo shaqadii iyo wixiiba halkaa igala wareegay waan ka fadhiisanaya dan wuxuu igu yidhi waayahay hadday sidaa tahay Saad Cali Muuse baa yidhi markaad baxbaxay iyo marmar ha kaa nasiiso inantu dan waxaan ku yidhi adigu booskaygaas waan ka shaqaynayaa haddii aad leedahay haddii aan ka shaqaynayo ay igu shiinaan waan ka shaqaynaya haddii kalena hadda igala wareegay dan adigu inantii halkii baa lagaga tegay dhacdooyinka kale dhacay ee la yaabka lahaa waxaa ka mid ahaa markii aanu codadka tirinayay xisbigii halkii ama loo tigarayn lahaa musharaxa ama dee karooskii la saari lahaa baa waxaa dhacday in magaciisoo kale lagu qoray aniga tababarka CLD laygu sii siiyeyna labada calaamadood wax ka baxsan waa codadka xumaada ku jireen bay aniga xisaabsanta din saasaan u tirinay anagu markaa iyadoo hawshii si u socoto ayaa habeennimadii waxaa noo soo galay gudoomiyaha iyo xogayaha qadri ma aysan calaamad xilliga tirinaysan sanadooda xilliga tirinta socotay inantii kulmiyaadee meesha codadka dee ugu khasaaraha badan xisbigu dee ku xisaabtamay inanta meeshuu joogtay ayaa tiri codad noocaa iyo noocaa baa jira den gudoomiyaha Saad Cali Muuse ayaa markaa nala taagnaa gudoomiyaha mool ka hadlayo kadib ku taagnaa dabeed wuxuu yidhi codadka magacu ku qoran yahay qof musharax magaciisa lagu qoray maaha codad ansaxa waa codadka fayl garoobay bay ku jiraan den uu naga baxay Saad Cali Muuse gudoomiyaha ayaa noo soo galay markaa dee sidii laba qof oo dibadda wax isku soo weydiiyey oo kale iyagoo ah bay nagu soo noqdeen dan waxay idhaahdeen Saad Cali gudoomiyaha yidhi haddii qofku intaa loogu talagalay xisbiga halkaasoo kale calankiisii baa yaala ilaa iyo khaanada yareeda loogu talagalay inuu tigareeyo ama karooska saaro intaa qofku wuxuu ku qoray waa u ansax ilaa magac maahe aniga sidee lagu sii siiyey trainingkana waxay ahayd halkaa yaree loogu talagalay meel aan ahay qofkii dee wax ku qora inuu waraaqdaas ku xumaaday ku jirto xisbiga calankiisa xaggiisa dambe ee waraaqdaba kasoo bilaabmayso ayaa dad karoos gareeya ka warantaa baan ku nidhi wuxuu yidhi caadi xisbiga u xisaabsanta den Saad Cali Muuse yidhi anigu markii seminaarkaa la bixinayay ingiriiska ayaan ku maqlaa oo wax waro aan ka hayaa ma jirto markii horena wuxuu igu yidhi codadka xumaaday bay ku jiraan adigu wallaahi codadkaasina haddaan qiyaaso ilaa iyo dhowr iyo 8 gaadhay xaqiiqa raadintama ay fursadayn dhacdooyinkani waxaanuna sii wadanay baadi goobkayagii waxaa khasab noqotay inaanu gaadhno degmo doorashooyinkii dalka iyo inaanu wada baadi goobno intii aanu ka heli karno shaqaalihii komishanku dirsaday ee ahaa ardaydii jaamacadaha dalka gobolka Maroodi Jeex oo ahaa goobihii ugu darnaa ee ay ka dhacday boobka nidaamsan ayaanu ugu horeyn abaarnay dhibaatooyin kale haddaan ka arko waxaa gebi ahaanba goobteeda laga saara markay ahayd 8 subaxnimo ilinka laga hor istaagay ciidanka hor istaagay munaaqibka xisbiga wada markaan ku niro munaaqibka sharciga anaga oo leenaan ku eegano edhikaarka wuxuu sitay edhikaar saxa waxaana inaan qurbo joogo edhikaarkiisa markaan waa sax soo daaya ciidanka ayaa hor istaagay oo yiri ma soo galay وصح markaad u sheegtay komishinkii guud arintaas maxay yiraahdeen komishinkii guud markaan arinta guud u sheegnay waxaan ugu dhawaar rabshado wale sidoo kale Cabdirasaaq oo dhacdooyinka goobta ka dhacay ee ugu muhiimsanaa ee shacabku la yaabay waxa kamid ahayd goobtan aanu joognay waxay goob xasaasiya cod badan yaalo
waxaan imanayay saraakiisha xisbiga wadani gabi ahaanba saraakiisha xisbiga wadani goobta waa lagu hor istaagay sidoo kale waxaa dhinac ordayay saraakiisha xisbiga kulmiye saraakiisha xisbiga kulmiye waxay kugu soo galayeen iyagoo cuntubiya ah goobta annaga ka mas'uuliyiin markana lagu tababar waxaan ku yiri xataa gudoomiyaha komishanku soo qalaad celisaan waa inuu noqdo amarkiinu ka shaqeeya laakiin tiima dhicino rag bila kaaro laanu xisbi baanahay oo laabta ku garaacaya ku awood sheeganaya aan ku hanjabaya daaqada laga soo qaylinaya oo lagu leeyahay aan hadad ka baxid goobta oo ciyaal xaafadeed baa lagu sameeyay marka dhibaatooyinka dhan baa jira adigu sanduuqii waxaan wadnaba 12 soo gaadhay abaar 12 inta wixii ka dambeeyay waa dhibaato waliba bilaabantay gelinkii hore intii dadku codeynayeen caadi bahay gelinkii dambe waxa bilaabmay in dadkii saaka codeeyay iyagu kaarkooda istanoo soo galaan number baan la siiyay 318 alayhi commission ka waxaan kaga xidhmaan soo garaaca aan la hadlay waxaan hawshaas jirta dad maanta codeeyay ba hadir taagan commission waxay dhaheen heshiiye dadka heshiiye saasad nagu soo tababarteen nagu soo dhaariseen oo waliba masaafada inta soo kiiloomitir baad leedihiin heshiiye arrinka hoos u dhigo dejiya waan ku dhigay dadkii baan soobsanay meesha wafdida kulmiye xoog bay ugu soo qulqulaysa wadani iyo ucid goobta waxay siri dadkii muraaqibiintii u fadhiyay basrahan cunto keena cuntadii inta laga qaaday baa dibadda la dhigay qofku xaajo iyo cunto midna waa bixiyay oo wallah inka gudoomiye ku xigeenka meesha laga qaaday iyo meesha fadhiyay qofka intuu soo eego uu eegi uu soo deynay waxay noola yimaadeen haddana kaar qofka wajigiisa iyo jab kale oo magac ka jabna isaga la wajigiisa waa kan kula soo taagan oo jabka iyo wajiga soo garan laakiin sa magacan garamayst qofka inuu codeeyay waad ku aragtaa gacanta waan ka diidnay commissionkii 318 baan dib u garaacay sidaa jirta waxa dhan dhibaato male xaliya wasiir baa noo yimi hase haatee aniga intii gudoomiyaha hadal buu nagu sii tuuray wuxuu yiri hawsha dhameeyo bacda maghribna haynoo ahaato wasiirka hadeer inaan yar magacaamaha waa xilkii waa ka dig waayahay waxaan anaa u jawaabay waxaan ku waxaan isaga imaanaa ma jirto waxna dhex yaalaan ma jirto sanduuqa saanu marka waxay ku dhamaadaan aan tiriyana gaariga aan saarnaa dib raacaya iyadoo sidaaba hadana waxa mar kale yimi kaadar kale dadita hadana waan diiday inta gudoomiyaha iyo dadka kale meesha joogo oo dhan wala soo raacsan laakiin sameeyasha waxa israacsan oo cadaaladda ay dhabka tahay aniga iyo saddexda askariga dibadda taagan iyadoo ay sidii tahay bageenkii dambe meelaha afartii galabnimo waxa yimi saddex nin iyo gabadh card commission ka balista oo ragad mas'uuliyiin moodayso anigii bay qabteen ina ka yiri ila saak laga cabanaya soo kan maaha dadkii meesha joogo dhan ha wallahi qabtay dibadda la tuuray halkii aan fadhiyay saddexdii nin dibadda ma tuurtay halkii aan fadhiyay inantii baa la fadhiisay ku afraayda la socotay bila kaarka iyo kaarka kale wixii jajabnaayo wixii oo dhan bay sidiisay dib baa la soo sabay waxa lagu meesha soo dab waxaan aniga shaqadii mar dad la wareegteen shaqay ma taale aan commissionka la hadlaya commissionka la hadlay sidaa iyo sidaas ay u dhacday waliba halka ku yar dhaafee inanka muraaqibka wadani u fadhiya موبل بكدوري مركي اللي قاضي مركي اللي عاي مركي اللي ماجي جودا ما كان ديب لا يصوب جودا سوق الله كل جودا هالشيء إني كاس واحد بيني كدوري موبل كولا قاضي ولا كتشيبي وراقها عادين وراقها إجسترا ولا سعودي أنا الكتاب بري لعل حتى يدي ما تندد مسؤولة فيصلوا كلا بدح من موسى كلا عبد الرحمن عيسى كلا حتى يدي ما تن أكو عادينيا oo iyaga commission kan lagu soo daray kuwii waliba codeeyay
intii gabadhu meesha fadhiday ay dadkan kalena saaraysay baa lagu codeeyey intaa markay dhacday tirintii baa bilaabantay waxaa xaq u leh inay tirin waxaa xaq u leh inuu warqadda ka soo saaro meesha guddoomiyaha wuxuu u dhiibayaa guddoomiye ku-xigeenka anigoo xog hayaa baa gacanta saddexaad lay dhiibaya guddoomiye ku-xigeenku saas uu furayaa muraaqibiinta uu saa ugu jeedinaya anaa lay dhiibayaa saddexdii xisbi kii lahaa baan teeli shiid ku qoraya warqaddii loogu soo talagalay iyadoo sidaa tahay waa haddana mar walba oo xisbiga wadani warqadiisa lagu codeeyey lasoo saaro waxa la dhahaa waa faalid waa warqad xumaatay anigu waan diidanaa waxaan laa waryaare saddexda xisbiba xaq baan meesha ugu fadhinaa cabashadii mar haddana komishankan ku celiyey oo markii shanaad ma aragtaa waxaa la yidhi heshiiyo arrinka dhammeeyo inaga soo gebagabeeya shaqadiiba dhammaataya intana waxba isku colaysiinina xogaha baadigoob kuma koobna intaasoo keliya waxaanuna tagnay koob meesha wax badan waxaan ku arkay waxa buugaag baa naloo dhiibay min 15 iyo min 10 iyo min 5 aniga waxa la dhiibay gudoomiyaha ahaayo 12 buug oo min 15 12 buug oo min 15 ka hadho marka meesha la tagay waan aragtay mid kasta saddex waraaqood baa ka maqan waxa kale oo la dhiibay buug min 5 oo 5 mid ah buuga min 5 min waraaq baa ka maqan afar waraaqood bay ahaayeen markii codadka la kala tirsanay waxa uu tagay waraaqihii iga maqnaa oo sanduuq ugu jiray ugu tago shaambada soo kulmiyo codaysan oo kulmiyo calaamad ugu tagay waraaqihii aniga iga maqnaa doonayay oo sanduuq ugu jiray cid ku ridayna garan maayo dadka sanduuqa aad ugu tagteen natiijadii ku jireen kuwii la soo qoro way ku jireen natiijadii way ku jireen waxaa ku imanaya qof yar oo dhalinyaro ah under wax ka yar 18 oo wata qof aduu dhowr iyo 40 kaarkiisii wata oo ku dhahaya aniga iskale sidoo kale way jiraan ciyaar yar oo kaararkii iyagu sidii saxnaa u wata laakiin taas waxay ku xidhan tahay diiwaangelintii marwal markay aduu ilaa muddo 15 daqiiqo socoto ayaa waxa ku iman qof aan kaarkiis lahaynba oo qof weyne khasab u dhaama ku codeynaya marka dad waxa masti noqonaysa inaad joojisid doorashadii ciidanku marka tiraahdo qofkan ma baalaha kaarkiisa iyaga baa dhahaya halka ku marina dhahaya iyaga iska qofkani waanu ilo yeelo ku codeeya iyaga amar ku siinay waanu codeeya qofkan ciidankii baa oranay horta waa hawlo iska badnaayeen aduu kale faragelinta ugu badanna meesha waxaa ku hayay xisbiga kulmi walow dee dadka markaa meesha aad ka wada shaqaynayna dad deegaanka u dhashay ay ahaayeen habeenkii oo kale waxaa dhacday markii gaadho kala tirinayay intee kaararkii meesha yaalay iyo codkii laga rabay buuggii ay kala bateen aduu ilaa 800 baa laga rabay تكون يا أبا فوق. waxaa dhici kara marka qaar baa dadka marka warqadii qof uu dhiibtay aad u eegtid adoon soo saxaba adoon qof mid ama laba kala jeeb kasta ee markuu meesha ku ridayna de qof gacanta sama eegi kartid adoo de warqadii ku laaba ama laba ku sii laabaya kale taasoo kala aad qof kaga beesan kara laakiin marka hore de qof goobta ka shaqeynaya doomo ogolaan kartid inaad aad ku sii deysid warqadii bid ka imaan khasabtaas waa jirta walba saash markii cabasho ma qortay oo ma tiri sanduuqan waraaqada dibadda kaga yimo ma baan jarin 200 iyo casaan kan kale 800 baan jaray cabashada komishanka ma gudbisay waa loo gudbiyaa inta waanu sheegnay waxba adu markaa lagama qaban waa dhameeyna leeyo cabashada leeyahay idina waxa laga moos qaaday markii dhaarinayay aan ka baxnay degmada Laascaanood in ay ugu yiri qof walba waxaad matashaa gudoomiyaha komishanka may noqon oo markaan shaqo ka baxnay gawaadhida fulay waxaan aragnay inay askartu say doonto baawarkeeda u adeegsanayso waadna dareemi kartaa qof inta magaalada uu joogay ee uu ku kacamay laga qaaday oo degmo kale la geeyay
waxyaabaha kale aan arkay waxaa ka mid ahaa markaanu soo galay degmada Sheekh habeenkii codku maalinta doorasho soo dhacday in habeenkii aan arkay ardayda qaar ka mid ah oo soo hoysay buuggii codbixinta oo aan laga jirin hal waraaq isagoo bartiisa ku yaala la shaambadiyay oo shaambada iyo calaamadii halkaa tig un laga saaray kulmiye waxaa kaloo jirtay in annagana lagu qabsaday waraaqo oo markii tababarkan lagu yiri waa cod xumaaday markaan cod xumaaday ku soo qornayna lagu qabsaday in dibadda lacag lagu qaybinayay baa jirtay aanan baawar u lahayn inaan saaro qofkii aan ku dhigi karay saarna wuxuu ahaa askartii la socotay marka askartii la socotay haddaysan amarkayga ku shaqeynayn waxay noqotay inaan iska aamuso oo wixii halka ka dhacay aan shaun ka eego qofka bilaadankaana marka dacwadda aad gudbiso in laga aqbalo bay ku qoranta haddii aan cidna ka qorin meel aad geysan aadan garanayn waxaad ku qasbantahay inaad iska aamuso sidii loo walaaqanayo aad u walaaqdo walow ciidamada kala duwan si ba'an uga qayb qaateen haddana waxa ka sii daran in goobaha qaarkood muraaqibiintii xisbiga wadani ay gacmahooda ula tageen ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliland kuwani waa qaar ka mid ah muraaqibiintii xisbigaasi oo si fool xun loo garaacayo lagana saarayo goobihii codbixinta waxa qayb ka tahay cadaymaha soo galay gacmaha baadiga waxa soo galay Cabdulqaadir Iimaan inantii markaa meesha joogtay uu markiiba maxaa hayd uu abaaray wuxuu yiri gabadhanu ma waxa ay astaghfirullah gabadha ma naagtanu buu yiri waliba isagoo si ugu dhiimaan ay garnaya maxaa hayd ma maraaqiba mise maxaa hayd qof caadi waa maraaqib miyay ku tustay cadaynteedii haabay tiri oo kaarkeedii bana tustay yaa keenay waxay tiri gudoomiyihii baa keenay fadal buu la hadlay wuxuu fadal nin iga sareeya mi meesha jooga ma buu yiri haddaba gabadhan hala iga saaro Abdullaahi fadal baan ku wari gudoomiyaha aan baabuur u yeedho haddaba wuxuu ma yeeran karay dibadda u baxo u yeedho waxaan ku wari dadkan dibadda jooga ee qaylinaya arkaysid uma bixi karaaye ammaankayga yaa sugaya wuxuu cidii ku keentay baa ku sugaysa dadna wala yaqaan dibadda lay sida haweenada loola dhaqmay ayaa waxaa marag u ah in commissionku mas'uuliyiintiisa oo uu kow ka yahay gudoomiyaha commissionku ay u xusul duubnaayeen sidii ay cid kasta uga badsan lahaayeen ka qayb noqoshada boobka doorashada waxay aqbashay haweenadan in goobta dambi la'aan lagaga saaro balse waxa la yaab leh si ay nafteeda u badbaadiso waxay u irkatay jananka booliska Soomaaliland fada oo gudoomiyaha la socday inuu waajibkiyo xaqii muwaadinku lahaa kaliya gutaha joogtay tuqaan tuqa ayuu dibadda ugu saaray Faadimo Saciid laga saaray waxaan ka ahaa gudoomiye munaaqibkiyada lagu soo bedelay oo komishanku hore uga saaray goobtayda Faadimo markii la saaray runtii way calaacalis taliyaha booliska oo la socday gudoomiyaha komishanka ayay waxay ku codsatay in gaarigeeda u yeerato taliyuhu kama yeelin waan la saaray waxa taa ka sii daran oo goobtooda ka dhacday salaadii casar ka bacdi kiyugu waxa soo buuxiyay dad carruur iyo dad waaweynba ah oo sita kaaraan lahay waan joojiyay anigu meeshii buuq badan baa ka dhashay كموشكي بقراعة وحقيقي ما أفياك كموشكا هي قدومي كموشكا سعيد علي موسى عبد القادر إيمان
gudoomiyuhu wuxuu yidhi maxaa dhacay oo waxay buuqani waxaan ku yidhi dadka safka ku jira yar yar waaweynba waxay sitaan kaarar aan lahayn inta gudaha ku jirta kaararkooda eega gudoomiyuhu wuxuu yidhi meesha foodada adiga ka wada ka kax kursiga isaga kursigayga fadhiistay wuxuu u ogolaaday inay codeeyaan dhammaan dadkii sitay kaarar aan lahayn gudoomiyuhu markuu saa sameynaya uu kursiga ku fadhiyo waxaan ka qaaday sawiro oo moobilkayga ka qaaday sawirada ninka moobilkayga ku jira xadhig garaacis caga jugle iyo handadaadiba waxay ahaayeen ina daan weyne si kale haddii aynu u dhigno waxaaba sii dheeraa masabidkiis u samayn ama xaalad abuur xadhig xalaalayna maadaama ka mid ahaa dadka xisbiga u qaabilsanaa kormeerka waxaan imid goob ka mida goobaha ku yaala xaafadan Shaboorame runtii markii waxaan arkay meelaha goob aad moodo inuu kulmiye ka shaqeynayo oo aanu commission ba joog gudaha waxaa ku jira dhalinyar badan oo kulmiya oo aan commission ka u shaqeynayn muraaqabiintii kulmiyana aan ahayn safka horena waxa taagan dhalinyar noocaas ah waa dhalinyar runtii xaafad ah dadka kala garanaya dadka wadaniga ee garanayaan dib baa loo riixayaa dadka kalena waa la soo deynayaa gudahana saas oo kale looga maamulaya dadna meeshii waxaan isku dayay inaan askartii u sheego kula wardistan sax maaha iyo qoladii commissionka waxaa cajiibka waxa kamid ah in lacagna lagu qaybinayay goobta waliba dadka la dhaarinay markaan askartii u sheegay dhowr jeer aan commissionka la hadlin kul waxaan istan sax maaha markii xogaa kadib waxa yimid nin sirdoonka kamid ah oo wata gaari nooha uu yeeray oo wuxuu ninka baasha la yiraahdo adiga maaha haaba ku yiri wuxuu yiri nakeen waxa geeban tagaynaa wuxuu waxa ku doonaysa saraakiishii ciidanka ugu sarreeyay waxaan ku raadiyaa tahay ka wuxuu sirdoon cadeyntaadii tusmaan ku cadeyntii way tusay waan inakeen ma ku dhaw waan soo raacay wuxuu keenay halkan miiska saraakiisha waa janankii booliska janankii militariga janankii immigrationka laanta socdaalka iyo janankii sirdoonka inta fadhida waa inta marka hore sababta la meesha la iga rabo ma garanayn email sheegin markaan ninkii soo kaxay marka halkii soo fadhiisanay waraaqo jibada kala soo baxay ninkii sirdoonka oo waraaqa cadad markii dambe la sheegay inay yihiin waraaqihii loogu talagalay dadka in lagu baro qaabka loo codeynayo dadna wuxuu gacanta ka keliyay taliyihii ciidanka booliska wuxuu ku yiri ninkani oo baasha la yiraahdaa waraaqahan buu safka ku qaybinayay marka amniga ayuu wuxuu dhimay laakiin tacajiibka waxa ay waraaqahaas mana arag hatta ninkani inuu sita moogeyn anigana iga muuqaadin meel yaalana moogeyn dadna markuu eegay janankii boolisku wuxuu u wareejiyay janankii militariga janankii militariga runtii si macquul ah wuxuu ku war waxani waa malaha waraaqii bixinta maxay macna sameynaya isla markiiba janankii booliska la wareego wuxuu leeyahay ninkani amniga ayuu burburinay waxaan ku taliyay burburinta amniga maxaa u taqaana maxaad ku cadeynaysaa inaan maxaa ku raadayay amniga burburinay goob baan joogay waxa la waxaan sameeyay ma jirin waxana waa been abuur la wada iyo dawada mid kale waxa cajiibaan ku afartiinan taliye hawl intan ka weyn baa idin taalay maxay ku mashquuliyay goob doorasho taamiyaan loo fasirin karay in idinka laftigiinu aad dhinac ka tihiin oo boobka soo dhibaatooyinka soo qayb ka tihiin tan markii uu taliyay boolisku amar buu bixiyo wuxuu maya waa in la xiro kaxeeyo ninkan xid tan waxaan weydiiyay su'aal baan waxaan ku dadkii aan u sheegay inaad xidhayde tan may buu yiri sidii telefoonka iga qaaday waa la qaaday marka waxa la geeyay goob guri aanan garanayn runtii oo ku yaala wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada area-daasi ku yaala guriga waxa jooga dhowr askari oo kaliya taa jooga halkii baa la igu xiray kolka aan ogaanay intaasoo khaladaadii inay dalka ka dhaceen waxaanu raadinay komishankii iimayl ayaanu kaga dalbanay inay waraysiyana siiyaan kulamo ayaanu la yeelanay balse waxay nagu xidheen in su'aalaha la weydiin doono aan u soo dirno qaar ka mid ah ayaanu u dirnay
komishanku waxay nagu wargeliyeen inaanay ogolayn waxyaabo ku wajahan dharaartii doorashada inaanu wax ka weydiino waxayna la ballameen 15 maalmood kadib inay waraysina siin doonaan inaanu helo ayaa muhiim noo ahayd waanuna ka aqbalay codsigooda xeerarka galdaloolooyinka ku gadaaman ayaanu wax ka weydiinay oo qaarkood qirteen waxaanu kaloo weydiinay shaqaalaha ay dirsadeen inaanay tababar qabin qaarkood iyo inaanu baaritaan ku samayn karno waxaanu kaloo weydiinay doorka ururada aan dawliga ahayn doorashadaasi ku lahaayeen iyo tirada guud ee goobaha ay gaadheen goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah waxa komishanku ka been sheegay tirada goobaha doorashada ee goobjoogayaasha maxalliga ah gaadheen iyo boqolkiiba inta kuwa caalamiga ah gaadheen مدن عبد القادر حربة دورشة الوقلة حركة بدن كذا وح كبدل كوسميسين لبعتر مع الموت دورشة كار قاركون حركة هذا كبدل كوسميسين ميدي كم وقت قلدلولو ينيع وك إيمان كره رارتي دورشة المركز إيتو حركة أبو شيء مركز السوق هذا حركة نمبر 20 وكله حركة لبعتر هذا قلدلولو يفرقين بتمو iyadoo weliba anagu aanan xeer ahaan lahayn ee ahayd inay xeer dejintu iyadoo diyaariso doorashada ka horba waxaa kaloo caqabada ahaa dadkii isdiiwaan gelinayay la socotaa 2016 2017 abaare baaxsan baa waddanka ka jiray dadkii isdiiwaan gelinayay waxay ku baqlaayeen badankoodu Itoobiya iyo meelo ka fog ama meesha maxalli Soomaaliya ama Puntland marka taasuna way caqabad bay nagu noqotay sidaan u gaari lahayn dadkii waqti badan way ka qaadatay way ma la oran karaa doorasho xalaal ah maydaan qaban maadaama toddobadiina xubnood laba xubnood oo kaliya ay ka soo jeedaan asxaabta mucaaradka shanta xubnood ee kale oo mudan cabdiqaadir adigu aad ka mid tahay ay hal xisbi oo kulmiyaha ka soo wada jeedaan maya qof marmarsiiyo doonuu baaban kara aan ka gudubno ma ay jirin wax xaqiijinaya qofka codeeyaha iyo kaarka uu sitaa inay isleeyihiin marka laga reebo gudoomiye ku xigeenka goobta oo qofkii kaarka eegay isla qofkaas iyo waliba qofka calaamadiyaha ah wax tababar ah ma ay helin sidoo kale cidi ma dhaarin taas maxaad ka leedahay message jirtaa tiraba waxaan bixinay 4 tababar iyo shaqaalaha siinay oo kala duwan oo ka ugu yareeyay 3 maalmood marka 12 maalmood tababar la siiyay gobolada iyo ardayda shaqaalaha iyo kuwa koortiin ma noo sheegi kartaa ururada aan dawliga ahayn sida Sonsof iyo Akademiyadda Nabadda doorka ay ku leeyihiin sharciyan doorashada sidee si kaalin ugu yeelan karaan xalaaleynta doorashada iyo hufnaanteeda hay'adaha aan dawliga ahayn waxay ku leeyihiin kormeer waxay ku leeyihiin iyaguna transparency waxaan u sheegnaa waan tusnaa seminar kastoon qabanayno ama training kastoon qabanayno waan u yeernaa waxaan shaqadaas aan qabanaynaa ogaanay waxay ku leeyihiin markaa doorashada roolka ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeyaan inay goobjoogayaal maxalliya u soo dirsadaan tan labaad ma noo xaqiijin kartaa goobjoogayaasha Sonsof dirsatay ee maxalliga ahaa tirada goobaha doorasho ee ay ka howlgaleen haddiiba aad ka warhayseen goobjoogayaasha caalamiga ahayse goobaha codbixinta boqolkiiba imisa ayay gaadheen 1642 goobood oo goobjoogayaal baa u jooga maxalliya la soo tababaray la train gareeyay kuwa sameynaa training oo ku train gareyno habka goobta ay u maamulayaan ee u soo gudbinayaan wixii cabasho ama wixii dacwo ka yimaada marka iyagu waxay ku leeyihiin goobjoogayaal maxalliya waxa kaloo jira goobjoogayaal caalamiya oo sanadkan waxaa sanadkii ugu badnaayay goobjoogayaal caalamiya ay yimaadaan oo ay tegeen 55% in ka badan goobihii codbixinta ay tegeen
muujinaysa in si fiican loogu diyaar garoobay in doorashadu noqoto mid lagu galo wixii la rabo kaadhar la'aan kaadharkii doorashadii 2010 kaadharka dhalashada ee dowladaha hoose liisanada baabuurta khaladaadkaasi isbiirsaday ayaa ah kuwa meesha ka saaraya sheegashada odhanaysa inay commissionku qabteen doorasho xor iyo xalaal ah mudane iimaan taa haddii aan ka imaado maadaama doorashadii dhaweyd wax qabanayay aanay jirin in qof 2 jeer codeeyo sidoo kale la sheegay kaadhar macmal ah oo lagu codeeyay iyo dad loo codeeyay oo inay codeeyaan iyana loo diiday haddiiba dib xisbiyadu idiin aaminaan oo cidi doorasho dambe idiin dirato qorshaha ma idinku jirta inaad keentaan qalab xaqiijinaya qofka kaadhkiisa sita iyo midka sita kaadh macmala ama kaadh aanu balahayn iriskan markii aynu keenay waxaan doonaynay inaynu hal cod iyo hal qof ka dhigno oo doorashadeenu xalaal inoo noqoto xorna inoo noqoto qofka lagu khasbin inuu galo ama hebel u codeeyo ama hebel u codeeyo iriskii aan ku galnay imaka dub baan u furaynaa serverkii aan markaa ku talagelaynaa in aanu goobta markuu kaarkii qofka qaato goobta codaynta markuu yimaado in iriskii loo geliyo si ay u hadhaba hebel baa waa walaalkii iyo qof uu soo qaadayo qof horaa codeeyo waxaas u xelaysa marka qofku haddaanu kiisii ahayn uu soo saaraya waa laga saaraya halka waxaa jirta in gacmaha loola tagay commissioner ay gacmaha loola tagay muraaqibiin ka saareen taama maqasheen waxa aniga isoo gaadhay goob ka mid ah halka xisbiga agtiisa in inan laga saaray goobta ma jirtaa innaba shaqaale aad dirsateen oon wax tababaragelin idiina shaqeeye weliba police stationska cabdirasaaqow waxaanu ka shaqaynaya shaqaalaha jaamacadda jaamacad walba waxaanu ka furnay tababar 4 isha arday aan tababarkaa qaadan oo aan kaarka ka qaadan goobamaan aan dirin xeerka kumishka waxa weeyaan markay tababarka qaataan waa in la dhaarayaa weliba markay dhammaystaan anugu waxaan jooga gobolka awdal boorama tababarka markay qaataan kelibis waad odar karaysaa anaa soo gelay su-aalo weydiinaya tababarkii qaadanayeyna anoo komishineer ayaa lahaa maxaa haddii aan kaastan waxaad leysaan haddii aan kaastan si aan u hubsado inay tababarkii liqeen ardadu oo ay ku shaqayn karayaan procedureka marka mar raba komishinka kaba suuragalaha idaan tababar lahayn inay qaadaan waayo shaqada ma qaban karayaan dee kabaadi goob ahaan cabdiraxmaan ma noo ogashi inaanu baadhis ka samayno baadhis madax bannaan aanu samayno shaqaalaha gobolada 22 degmo doorasho taasi runtii dee waa arrin qofku iminkaba dad badan baa si gaara waxay doonaan u baadha shaqaalihii imika anaga noo shaqeynay waanu sii diinay oo kontraag iyagu wuxuu ahaa muddo kooban marka iminka anaga dee shaqaalahan tababarnayn iyo shaqaalaha tababarteen labadaasay kala sheegin shaqaalahan tababarnayn idinma shaqagelin lama shaqagelin isagu waxaan tababarnayn komishinka ka mamnuucba wadani wuxuu soo bandhigay waraaqihii doorashada oo aan la garanayn inay ka bixin gacantiina iyo inay gacan kale ka yimaadeen waraaq keliya ayuu idin tusay mise waxay ahaayeen buwaag wixii la helay beriga xisbiga wadani annaga wuxuu noo keenay warqad gobolka saaxil ah laakiin buug ma dhacan buug idimay keenin laakiin buug ma ahayn si aanu ugu dhowaano qaabka uu u dhacay boobka doorashadu baadigoob waxaa u suurta gashay inuu helay xogo iyo caddaymo muujinaya in waraaqihii codaynta habeennimadii berri doorashadu dhacaysay lagu qaybiyey gobollada dalka taasi oo dhammaystiraysa xaqiiqooyinka aynu hore u wadaagnay ee ahaa in kaadharkii doorashada loo qaybiyey dad aan kaadhar haysan iyo in kaadhar macmali ay waxyaabaha lagu codeeyey qayb ka yihiin ما هو بدنا وراقو dhalinyarada oo dhan waa loo qaybiyay waxaana loogu qaybiyay xaafadahan dhalinyarada xaafada siya habeennimadii
iyagoo bilaa shaambada oo goobta shaambadeedina ku oolin si aan markan annagoo kaarka qaadana aan u galno waraaqdana loogu dhiibaa lagu ridno waraaqa habeennimadkii xaafadaha u qaybinaya xusbiga kulmiye komishankaanay ka soo saaray waxaa xaqiiqa ah in gobollada dalka oo dhan lagu qaybiyey buwaagtii codbixinta mucaaradku hore waxay ugu andacoonayeen natiijada doorashada ka hor inay heleen waraaqo ka mid ah kuwii lagaga codeeyey gobolka saaxil waxaa caddaymaha baadigoob gacanta u soo galay qayb ka ah buwaag iyo waraaqo ka mid ah kuwii codbixinta oo habeennimadii doorashadu berri dhacaysay xisbiga talada ayaa ku qaybiyey gobollada dalka kani waa saaxil oo waa buug kanna waa buug iyo waraaqo aan iyaguna wax shaambadahba lahayn iyana sida siiriyal nambarkooda idinka muuqata waa buwaagtii hargeysa lagaga codaynayay kan kale waa buug isna sida aad ku arkaysaan siiriyal nambarkiisa wuxuu ka mid ahaa buwaagtii gobolka togdheer codka lagaga dhiibtay bismillaah buuggan waa buug ka mida buugaagtii komishanka doorashooyinka qaranku waxaana lagu qaybinayay habeenkii ay doorashadu berri oo kala dhacaysay deegaano ka mida gobolka togdheer buuggan waa buug shaambadaysan oo kii komishanka doorashooyinka qaranka ah waa buuggaa shaambadaysan ee loogu talagalay qofku keliya markuu codaynayo oo warqadda codaynta loo geenayo in loo shaambadeeyo oo shaambadii oo halkan ku tala wada arki kartaan weli xisbiga wadani halkan ayuu taagan yahay dhawaan waa tuu sheegay kalsoonidiina kala noqday doorashadii u dambaysaa soo saarteen boqolkiiba 40 in ka badan ayuu haystaa taageerada shacabkaas haddiiba wadani saa kusii adkaysto kulmiye iyo wixii doorasho ma qaban doontaa runtii waan dareensannahay xisbiga wadani mar iyo laba wax ka badan buu sheegay inuu komishanka doorashooyinka u qaban kalsooni xisbiguna dee siyaasiyan ikhtiyaar buu leeyahay in kalsoonida awalba waana siiyeen imikana way nagaal noqdeen imikana waxa suuragal ah inay noo soo celiyaan oon laga wada hadlo dalkuna wuxuu leeyahay dad badan oo cayaana akhyaar badan buu leeyahay wixii madmadi jira waa laga wada hadli karaa laakiin annagu waxaanu jecel lahay doorashada aanu qabanayna in 3 xisbi ka wada qayb galaan danta qarankuna caynkaasay ku jirtaa danta ummadduna caynkaasay ku jirtaa kalsoonida iyo waxqabadka komishankuna saasay ku jirtaa marka aad waxaanu rajeynaynaa insha allah binaan alkariim doorashada in la wada qabto iyadoo 3 xisbiga ay u dhan yihiin wixii madmadowana layska shaafiyo layska raaligeliyo mid iyadoo la yahay si doorashada xigtada loo galo in la wada gaalo insha allah ilahay baan ku bishii Sebtembar ayaa xisbiga wadani shaki ka muujiyay shirkadda Al-Qurayb iyo bixinta qandaraaskaba cabashana u gudbiyay gudida doorashooyinka qaranka iyadoo sida xisbigu sheegay siyaalo kala duwan ay ku soo ogaadeen inta qandaraaska hoosta laga siiyay iyo waliba in shirkad South African oo magaceeda la yiraahdo Reform qandaraaskaasi lagaga qaaday qaab khilaafsan nidaamka qandaraasyada komishanka oo xubnaha ay noo ogolaadeen inay baadigoob hor yimaadaan aan wax ka weydiinay sababaha qandaraaska ay cid kale u bixisay maadaama ay shaqadoodii ahayd iyo bal inuu garanayaan magacyada shirkadihii qandaraaskaasi ka qayb galay ee laga hiiliyay toos ayay ugu hafteen su'aalahaasi ama ugu margadeen inay shirkadahaasi wax aqoon u leeyihiin iyo in kale taasoo muujinaysay warmoognimada dhinaca qandaraas bixinta ee komishanka doorashooyinka marka dadweynaha uu yara cadeeyo halkaa doorashada markii lagu leeyahay waxa jira qolooyin inaga caawiya doorashada waa caalam international community iyo waxa isku dara kharashka ku baxayso doorashada dawladda markaa joogta dawladda markaa joogta waxa la isla qaatay waan beri hore naga horreeyay teertaan barano ku baxay xisbiga wadani bishii Sebtembar sanadkii tagay 2007 waxaa jirtay in dacwad idin soo gudbiyay in shirkadda Al-Qurayb ay hoy u tahay musuqmaasuq tobanaan doorasho ma jirtaa dacwadaas task force-ku wuu noo yimi waraaqna wuu qoray waan uga jawaabnay waxyaabuu ku dacwoonayay waxaa ka mid ah security features waraaqaha shirkaddan imaaraadka soo daabacday haddii wadani markaaba ka cabanay see loo aaminay expertskayagii nala shaqaynayay waxay yidhaahdeen oo markii aanu maxayday tusaynay ama aanu la shaqaynaynay noo sheegeen in Somaliland tahay wadanka ugu security features adag Somaliland ka noqdo yaa bixiyay qandaraaska waxa bixiyay qoladan donorska ama
qoladan international donorska ee inaga caawiya doorashooyinka qaaran bixiyayaasha laakiin shirkadda waxaa la galay heshiiska creative good haddaan su-aal kale uga gudbo maxaa idinkuu bixin weydeen miyaanay ahayn shaqadiinni oo aad ka gaabiseen iyo mas-uuliyaddii aad u dhaarateen si aad u xaqiijisaan doorasho xor iyo xalaala oo dalka dhacda qaybtan waxaa ka mid ahay qaybtii dibadda markaa international donorska bixiyey hay-adaasna u soo xil saareen ma noo sheegi kartaa inta shirkadooda qandaraaska u tirtamay haddiiba ay jiraan qaar aad magacyadooda haysa wallaahi dee way badan yihiin rag ficlan hadda ma wada xusuusin muhiimaddeedana waxay hadba cidda ku guulaysataa ayaan xoogga saarayn waa tuma alqurayr alqurayr se ma leedahay sumado lagu aamino looguna dirsado inay soo daabacdo waraaqaha baalood baybariska ee doorashooyinka lagu galo القرير waxaa wada leh qoys maalqabeena oo ka kooban Cabdiraxmaan Sayf Al-Qurayr, Maajid Sayf Al-Qurayr, Cabdicasiis Sayf Al-Qurayr iyo Ciise Sayf Al-Qurayr. waxaa laga leeyahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta waa shirkad ganacsiyo kala duwan ku jirto oo ay ka mid tahay daabacaadaha noocyadooda kala duwan, bangiyada iyo ka ganacsiga warshadaha sibirka. shirkad ahaan waxay hore u soo daabacday waraaqii lagu galay doorashooyinkii rabshadaha dhaliyay dhiiga badanina ku daatay ee ka dhacay dalalka Kenya iyo Zambia. labadan wadanba waxa Al-Qurayr la xidhiidhiyay laguna dacweeyay inay gacan saar la yeelatay xisbiyada talada dalalkaasi haya isla markaasina maslaxado isdhaafsadeen sida uu qoray bishii August 2016 wargeyska la yahay Mail and Guardian ee laga leeyahay dalka Zambia xisbiga mucaaradka ee loo yaqaan United Party for National Development UPND ayaa dacwad ka gudbiyay Al-Qurayr doorashada ka hor waxaana soo farageliyay arrintaasi hay'adda qandaraasyada dawladda dalka Zambia Public Procurement Authority waxaana la cancel gareeyay qandaraaskaasi oo dib loo xayeysiiyay Kenya ayaa iyana Al-Qurayr doorashadii 2017 qandaraas xaqlin loogu hadoodilay ku heshay waraaqaha doorashadaas waxa iyana ka dhacday wadi iyo waxyeello xoogan taasoo waraaqaha Al-Qurayr u geysteen doorashadii dalka Kenya iska daynay noo soo daabacday inay xataa ka mid noqoto tartamayaasha ama cidii tartanka heshay ay qandaraas ku siisa ma ahayn ceeb weyn ba ka dhacay ma garanayno waraaqahaas kalsooni kuma naaqabin gudoomiyaha waa noo sheegnay maxaa talaabna weydiiyay dee waxaan ku nidhi qaadac doorashada 45 way kaarsi allahumma ballaqtu sida waxa ay badiga doonayso ma balaan bii keena buu waxaan ugu gudoomiyay bii ma laha waraaqaha dubina way inagii adogeed maslaxadeed halkii ka istaagnay haday tahay saldhiga iyo haday tahay dekada ya maalintii dhaweeyay la furayay dekada berberana suldaan oo muxuu ahaa agaasimaha DBWL waxa la socday Ciise Al-Qurayr iyo baashaha Imaaraadka nooga safiirka iyo murashaxiintii la tartamayay marka sideeba wadankii aynu hor istaagnay maslaxadiisa iyo saldhigiisa shirkad kamidii noogu soo daawada waraaqaha sideeba qandaraas loo siiyaa shirkadaynu ognahay dhibaatada markaa Kenya iyo wadamo kale Afrikaan ka geysatay siday qandaraaska ugu soo birtay halkan gudoomiyaha komishanka dadka u cadeeyay Al-Qurayr waxaanu la kala xiriirinay una anaku waxa u tagay creative oo shirkadda international Mareykan ayaa iyada xiriirka noo sameeysay marka maanu noomayma waxa ogeydeen in dawladda Imaaraadku mudane commissioner sida xaqiiqda ay la jirtay dhinac dabcan iyadoo khilaafka berbera dabada ku haysa lana og yahay inay waqti fara badan gelisay sidii ay u maalgelinayd xukuumiye iyo xataa xukuumadii maxay tahay waqtiga joogtaan raahde waxaad gara weydeen commissioner ahaan inay shirkad Imaaraatiya waraaqaha daabacdo in cadaaladiina dhaawici karto wixii siyaasad ah ee ama xisbiyo col ah ama xisbiyo isjecel ama xukuumadda dibadda cid kala xiriirta wax anaga noo yaalay oo aanu ku soo darsanay qiimaynteeda may ahayn sida la aaminsan yahay shirkadda Al-Qurayr ayaa qaab systematic ah oo ay adag tahay in la fahmo ugu sahasha murashaxiinta dalalka dawladda Imaaraadku danaha ka leedahay in codkoodu ka bato kuwa kale tiro boqolay ah oo ka badan 50% waana sababta ay tirada doorashooyinkii Zambia, Kenya iyo Somaliland xisbiyada talada haya ugu guuleysteen 50% in ka badan
kuma koobna wadamada Afrika ee Al-Qurayd danaha UAE iyo kuwa shirkad ahaanba ay doorashooyinkooda ugu musuqmaasuqay Zambia Kenya iyo Somaliland oo kaliya balse waxay hore ceebo musuqmaasuq Al-Qurayd uga sahayatay wadamada Uganda iyo Ivory Coast madaxweynaha Zambia iyo Al-Qurayd waxay ku wada kulmeen doorashada ka hor dalka Saudi Arabia halka Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya iyo xubno ka tirsan qoyskiisa iyo Al-Qurayd ay doorashada ka hor kulan ku wada yeesheen gudaha Kenya Somaliland iyo Al-Qurayd doorashada ka hor sidaasi si la mid ah ayaa safiirka Somaliland u fadhiyay Sultanka Imaaraadka Carabta oo ah dilaalka ugu weyn ee boobka dalka ka dhacay uu dalka keenay shirkadda Al-Qurayd madaxda Al-Qurayd murashixii kulmiye oo ah madaxweynaha maanta iyo madaxweynihii hore oo ay weheliyaan xubnaha kulmiye dhexdiisa shalay iyo maantaba loogu kalsoonida badan yahay dhinaca xiriirka Imaaraadka iyo danaha ay dalka ka leeyihiin ay ku wada kulmeen magaalada Barbara bishii May 2017 waadab imaatinka Somaliland ee madaxda shirkadda Al-Qurayd bulshadu war iyo wacaalmida kama hayaan komishanka doorashooyinka Somaliland oo shaqadoodu ahaydna waxba kalama ay socon tiraba waxaa jirta inay laba jeer dalka yimaadeen mas'uuliyiin ka socda Al-Qurayd maanta ma kulantay imaatinka Al-Qurayd gudida doorashooyinka Somaliland waxa aanay gabi ahaan basharax waafiya sidoo kale ka bixin karayn sababta loo doortay shirkad Imaaraati ah iyadoo la ogsoon yahay in dawladda Imaaraadku si toos ah gacanta ugu la jirtay siyaasadda dalka si weyn u ilaashanaysay danaheeda dhaqaale iyo military la xiriira saldhigga iyo dekada Berbera taasi oo xisbiga wadani si weyn uga soo horjeestay arrinta saldhigga sidoo kalena kulmiye iyo wadani ay ku muransanayeen si weyn heshiiska saxda ah ee dekada Berbera oo aan ilaa maanta xisbiga mucaaradka ee wadani taageersanayn qarinta heshiiskaasi waxaana hore loo toonsanaa in Imaaraadku ilaashiga danihiisa darteed lacago malaayiin dollar ah kaga qayb qaatay taageerada xisbiga kulmiye xilligii ololaha Imaaraadku baa xooga ayuu ku lahaa doorashadii hadda ina dhaaftay 2017 dawladaha sida xooga u taageeray xisbiga kulmiye ee lacagta ku bixiyay waayo kulmiye goob walba lacag buu la taagnaa safku lacagta la taagnaa lacagtu safka la taagnaa waa reer Somaliland way siqaanaan reer Somaliland maaha dad meelaha kale ku kala nool xukuumadda dhaqaalaheeda miisaaniyadda xukuumaddana waa la yaqaanaa ma shantii cisho ugu dambeysay 10 milyan buu isticmaalay kulmiye xaquu ka keenay midda kale markii ay ayaamihii doorashadu ay dhici doonto doorashadu waxay dhacday 13kii dalka waxa soo gaaray ayaamihii ay doorashadu dhici doonto 5 cisho 4 cisho ka hor qolo wafdiyo Imaaraadka ka timi oo ninka safiirka ah Imaaraadku uu la socday isagana lacagta siday goobtan joogay khadadkeeda waxa kamid ahaa in dadkii ku jiray safka inta safka laga kaxeeyo oo meel gaar ah la geeyo la soo siiyo lacag goobtii dadkii maamulkii degmadu kulmiyoodan dadka lacag bay siinayeen oo ku siinayeen macal dadkii oo ku jira ay ku siinayeen dadkii baa gacanta qasab lagu soo gelinayay noolanayo kulmiyo code faragelinta qaawan ee komishanku u geystay doorashadaasi ka bixida dhexdhexaadnimadii ay u dhaarteen siiba xubnaha komishanka kuwooda ugu sareeya kasakow sirta adinka qarsoon ee ay tahay inaad ogaataan ayaa ah sababta shirkadda Al-Qurayd kulmiye ugu boobtay doorashadaasi oo ah in doorashada ka hor ay ku hawlanayd shirkadaasi sidii loogu gacan gelin lahaa una maalgashan lahaayeen warshada sibirka ee Berbera taasi oo aan oran karno hadiiba ay u hirgasho waxay noqon doontaa abaalmarintii ugu weyneed ee shirkadda Al-Qurayd ku macaashto isdaba marinta doorashooyinka Afrika arrintan ayaa iyada lafteedu u baahan baaritaan wafdigii u horeeyay ka socda shirkadda Al-Qurayd waxay magaalada Berbera yimaadeen 12kii bishii May sanadii 2017 kuwaasi oo weheliyay ama la socday madaxa shirkadda DB World Sultan bin Sulaiman iyo ganacsato kale oo Carbeed waxaana imaatinkooda oo uu horkacayay safiirka Somaliland ee UAE Baashacwil lagu soo beegay xafladii wareejinta dekada Berbera tirada ergadaasi reer Imaaraat ee madaxda Al-Qurayd kamid ahayd sida adiin muuqata waxa lagu baahiyay warbaahinta afafka qalaad ee online-ka gaar ahaan kuwa lagu difaaca danaha Imaaraadka sida iyana muuqaalkan aad ka aragtaan tirada maalqabeennada reer Imaaraad oo uu ku jiro maalqabeenka shirkadaasi waxa afkiisa ka cadeynaya madaxa shirkadda DB World oo xafladaasi ka dhex sheegay There are 4 businessmen with us. Of course,
I must also thank His Excellency Mr. Mohammed Sheikh Suwaidi, the Director General of Abu Dhabi Development Fund. Also, there are 4 big businessmen with us today from big prominent families. One of them is Mr. Isa Al-Ghurair, where they are involved in banking, in food distribution. They are major investor in Jabal Ali. kasakow ka qaybgalka xafladaasi madaxtooyada magaalada Berbera ayay kulan ku wada qaateen madaxweynaha haatan talada haya madaxweynihii hore mas'uuliyiintii xukuumadii hore qaar kamid ah madaxda DB Well iyo mas'uulka ka socday shirkadda Al-Ghurair oo ah Isa Saif Al-Ghurair kulankaasi kadib waxa safar dalka Imaaraadka ku tagay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ee waqtigaasi maantana ah Abdirahmaan Ismaaciil Saylici iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiga Kulmiye waxa isna wafdigaasi ka daba tagay xilligaasi murashixii xisbiga Kulmiye madaxweynaha haatan Muuse Biixi Cabdi hal bil kadib safarkaasi waxa dib loo furay tandarkii shirkadaha waraaqaha ee xidhmay bishii January sanadka 2017 iyadoo bishii July ee dib loo furay isla sanadkaasi si toos ah loo siiyay shirkadda Al-Ghurair intaasi kuma ay koobneen waxa haddana taasi ku xigtay in xeerarkii doorashooyinka wax ka bedel lagu sameeyay lana joojiyay qorshihii ahaa in la mideeyo xeerarka 27 xeerarka wax ka bedelka lagu sameeyay ama qodobada lagu daray waxa kamid ah in bishii September meesha laga saaro qorshihii diiwaangelinta ayriska looga gol lahaa kaasi oo ahaa in goob codbixineed oo kasta ay yaalaan qalabka qof iyo kaarkiisa isu xaqiijinaya waxaana halkaasi lagu bedelay 2 qof gudoomiye ku xigeenka goobta codbixineed iyo calaamadiyaha labadaasi xubnood oo sida aanu hore u soo sheegnay idinkuna maqraatiyadooda baadhitaanka baadigoob ku wada daawanayseen aan midkoodna tababar gelin komishankuna ay dafirsan yihiin taasoo qayb ka noqonaysa sida komishanku bilow iyo dhammaadba qaybta uga yahay waxa dalka ka dhacay waxa ayana komishanku cayriyay madaxii shaqaalaha ka howlgelayay goobaha codbixinta madaxwaaxeedyadii kaydka xogaha iyo kaararkii soo noqday ee diiwaangelinta kuwaasi oo lagu bedelay dad dana gaar ah laga leeyahay ama hawlaha socda loo arkayay inay markaasi fududeeyayaal ka noqon karaan doorashada kadib ayaa madaxweynaha haatan talada haya ee doorashada caynkaasi oo ku soo baxay waxa uu safarkiisu ku tagay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta oo kula kulmay madaxa ugu sareeya shirkadda Al-Ghurair Majid Saif Al-Ghurair taasi oo loo badinayo in kulankaasi madaxweyne Biixi raad ku leeyahay ballanqaadyo doorashada ka hor loo qaaday maalqabeennada reer Al-Ghurair waxaa xusid mudan in sababta loo aasaasay shirkaddii soo shaac baxday doorashada kadib ee Somaliland Investment inay tahay weelka kaliya ee lagu qarinayo ama sahlaya xalaasiga heshiisyo kala duwan kuwaasi oo weli dibadda u soo bixin doorashada ka hor mas'uulka ka socday shirkadda Al-Ghurair Isa Al-Ghurair waxa uu booqday warshada sibidhka ee Berbera Al-Ghurair waxay maamushaa warshadaha sibidhka dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxay kaloo maamushaa warshadaha sibidhka soo saara ee dalka Cumaan waxaana tuhunku ku gadaamaya in Al-Ghurair halka ay u dhimatay u socotaa tahay warshada sibidhka ee magaalada Berbera taasoo weli soo ifbixin alahayn lagu guray codad xumaaday oo la sii daayay codad mucaaradka sharci darro iyo xaqlin looga hor istaagay waraaqo sanaaduuqda dibadda kaga yimi kaarar macmala kuwa dad kale sitaan dad loo diiday inay codeeyaan xarig sharci darro ah iyo ceebo aan xad lahayn maxay ahaayeen warbixinihii goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ay ku sheegeen inay dalka ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah baadhista ayaanu sii wadanay
waxaanu raadinay sababta goobjoogayaashu gudo iyo dibadba doorashadaasi xor iyo xalaal ugu tilmaameen amaba waxaan jirin isugu makhraati fure. madmadowga iyo tuhunka dul saaran doorashada waxaa sii xoojinaya xidhiidhka dhow ee ka dhexeeya maamulka goobjoogayaasha caalamiga ahaa iyo shakhsiyaad ka tirsan xisbiga iyo dowladda kulmi. Michael Wells waa madaxa ergadii goobjoogayaasha caalamiga ahayd ee doorashadii madaxtooyada. goobjooge ahaan waa xal lama huraan ah inuu tuhun oo dhan ka sarreeyo dhexdhexaadnimadiisana weynaan shaki gelin. nasiib darro taasi may dhicin. waxaa iyana xusideeda mudan safiirka Somaliland ee UK ayaan maxamuud iyo saygeeda jaamac muuse jaamac oo labadooduba taabacsan xisbiga kulmiye iyo madaxa goobjoogayaasha Michael Wells inay wada leeyihiin mulkiyadda ururka kayd ee Somali Week Festival maamula sidoo kalena wada maamulaan barnaamijka amaba mashaariicda xarunta dhaqanka iyo Hargeysa Book Fair. warqadan diiwaangelinta shirkadda ee dalka Ingiriisku waxa ay muujinaysaa in Michael Wells iyo ayaan maxamuud ay wada aasaaseen shirkadda kayd ee dhaqanka iyo farshaxanka Soomaalida. ayaan maxamuud waa safiirka Somaliland ee Ingiriiska oo fadhiya xukuumadihii u kala dambeeyay talada dalka ilaa 2007 waxa ay ka wada shaqeynayeen Somali Week Festival waxayna ka mid yihiin labadooda wasiir Sacad Cali Shire iyo shakhsiyaad kaleba aasaasayaasha ururka Somaliland Focus ee goobjoogayaasha doorashadan qaabilsanaa. xidhiidhka dhow iyo shuraakanimada 10 sano ka badan ayaa caddayn u ah isla jaanqaadaneed oo majaxaabinaya madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimada Michael Wells ee horjoogaha ergada goobjoogayaasha caalamiga ah. intaasi oo hagardaamo oo jirta Michael Wells wuxuu soo saaray go'aano uu shakhsiyaad ka soo jeeda Somaliland dhalasho ahaanna haysta dhalashada Ingiriiska kaga mamnuucayo goobjoogayaasha caalamiga inay ka mid noqdaan. dad hore loo shaqaalaysiiyay oo ka mid ahaa goobjoogayaasha caalamiga ayaa fiisayaashii gooray dalbadeen oo tigidhada soo goosteen la ogeysiiyay inaanay ka mid noqon doonin goobjoogayaasha. Michael Wells wuxuu arrintan ku fasiray in komishanka doorashooyinku soo farageliyeen kana reebeen dadkaasi. waxaad jirta waxaad ka mid tahay dadka xidhiidhka fiican la leh ururadii ka soo shaqeeyay internationalka ahaa doorashooyinka Somaliland. faarax waxaa nagu maqaalaa inaad ka mid ahayd goobjoogayaashii la doonayay inay ka howlgalaan doorashadiina dhaaftay ee 2017 dalka ka dhacday. goobjoogayaasha waa laydinka reebay baladoo ku soo dhowaanaya intaynaan u gudbin sababihii laydinka reebay. waxaad warbixin kooban naga siisaa ururka maamulayay doorashadii u dambeysay Somaliland oo tii u horeysay oo maamulo ururkaas oo magaciisu yahay Somaliland Focus. sidaad ka warqabtid cabdirsaaqow doorashooyinkii dalkan Somaliland ka qabsoomay sida tii 2010 iyo tii 2012 hay'ad international la yiraahdo Progressio ayaa maamuli jirtay oo soo qabanqaabin jirtay kormeerayaasha caalamiga ah ee ilaalinayay doorashooyinka. ururkan la yiraahdo Somaliland Focus wuxuu bilaabmay ama la abuuray 2008-2009 dalkan Ingiriisku ka hana qaaday. waxaa bilaabay oo bilowgiisii lahaa dad badan oo asal ahaan kasoo jeeday rag iyo dumarba leh Somaliland iyo dad ajaaniba oo la oran karo Somaliland Friends ama saaxiibada Somaliland. waxaa ka mid ah dad badan oo Somalilanders ah oo asal ahaan Somaliland kasoo jeeda oo dalkan Ingiriiska ku dhaqan ayaa ka mid ahaa hay'adan ama ururkan la yiraahdo Somaliland Focus. waxaa ka mid ahaa oo ka tirsanaa ururkan Dr. Sacad Cali Shire waqtigii dowladda xisbiga kulmiye oo mucaaradka ahaa xukuumaddii Daahir Riyaale ee udub. waana urur runtii waqti ku sifoobay abaabulkiisii iyo abuuritaankiisu waqtigaa mucaaradka lagu ahaa dowladdii udub. runtii dadka inta badi ururka ku jiray Somaliland Focus waa dad hadda iyo mar horeba ka soo qabtay xilal soo qabtay dowladdii Axmed Siinaye kulmiye iyo dowladdan hadda Muuse Biixi kulmiyaba. aad baad u mahadsan tahay intaan ugu maqaalo ah 30 xubnood ee dowladda Ingiriisku sida tooska ah kharashaadkooda u bixinaysay ee ka mid ahaa 60 qof ee goobjoogayaasha. kontraagii ay la gashay dowladda Ingiriisku
laydinku siiyey inaad goobjoogayaal ku noqotaan iyo tii ma jirtay meel kontaraaga lagaga baxay sidoo kale ma jirtay waraaq commissionku idiin soo diray ama meelu ka shaaciyay mise waxay ahayd arrin Michael Wells iyo dadka ku xeerani ay gaar idinkaga reebeen aniga faarax ahaan waxaan la shaqeeyay qaybta logisticska gabar la yiraahdo Triana oo Jarmala ayaa la shaqeynayay si aan ula fuliyo hawlaha loo baahan yahay ay ku fulayso mashruuca ku fulayo waxaan dhacday marka muddo ay ka dhiman tahay 10 cisho aniga bixitaankaygii ayaa waxaan ka helay warqad email baan ka helay Michael emailka markaa waxaa ku taalay in uu nagu wargelinayay in ay ka dalbatay guddiga doorashooyinka Somaliland ay ka dalbadeen in aanay doonayn inay ku jiraan goobjoogayaasha caalamiga ah dad wax alla wixii dad asal Somalilander ka soo horjeeda qurbaha ka yimid laakiinse waxa argagax nagu noqotay dad anagu aan isla nationality wada sidano dhalasho aan wada sidano qof New Zealandisa anagu qof maadaama dalkan aan deganahay dhalashada nationality kan isla British xubnihii kale ee asal ahaan Somaliland ka soo horjeeday ee ku jiray 30 qof ee iyaga kharashkooda la bixinayay iyo sidoo kale iyana waxay ahaayeen dad iyana British citizens arrinkaasi uu nagu adkaaday labada arrimood ba haba yaraatay wax cadayna oo Dr. Michael Wells soo bandhigay ama noo soo bandhigay ama noo soo diray haba yaraatay ma ay jirin meel la kuma aanan arag mana aanan maqal guddiga doorashooyinka ee laftigoodu oo ka hadlaya oo lama doonayno dad asal ahaantoodii Somaliland ka soo horjeeda marka arrintani waxay aniga ku bayla muuqatay arrin Michael ku kooban markaan waayay oo qof wadiray aan jirin kontraagii UCL qofku uu la galay kontraagii shaqo uu la galay oo jaamacadda UCL aanay burin oo dhan kontraagii wuu buray sababahaasuna ku buray taasi bedelkeeda Michael Wells kolkuu Hargeysa yimi wuxuu goobjoogayaasha ku soo darsaday waliba xubnihii ugu sareeyay dad kale oo reer Somaliland kuwaas oo taabacsan xisbiga kulmiye uu kana mid yahay Problem Maxamed oo isagu xisbiga kulmiye dacaayadihiisa ololaha iyo xafladaha kamid ahaa dadkii u qaabilsanaa inay Michael dadkaas aan dhexdhexaad ka noqon karin inay la shaqeynayaan oo waliba arrimaha meediyada logistikada ururinta xogaha arrimaha social media ay kala shaqeynayaan waxa uu ka hor sheegay guddida doorashooyinka taasoo aan guddidu wax isortaaga haba yaraatee ku sameeyeen we are joined by Tiaset Yatbarak who is with us to help us with the social media side of the communication from the election observation mission. She too is very active on Twitter and social media, so I'm looking forward to being able to make sure that we are present on different platforms. And finally, Roble himself, who's standing next to me, will be assisting us with media monitoring the Somali language news media and reporting back to us as an internal function and then into the reports that we will be producing. So I just wanted to introduce the team. dad badan ayaa aaminsan in go'aankaas dadka hore loogaga reebay kamid noqoshada goobjoogayaasha loogu talagalay in boos loogu baneeyo shakhsiyaadkan taabacsan ama xiriirka dawladda xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa email baadi goob ka helay xog bixiye dalbaday inaan magaciisa la shaacin oo ka tirsanaa goobjoogayaashii caalamiga ahaa waxa uu sii taakiidinayaa sida Michael Wells ugu xusul duubnaa inuu goobjoogayaasha ku soo daro dad Soomaaliya ajaanib leh ashkhaastaas waxaa kamid ahaa isaguna Maad Edribok oo ka shaqeynaya markaasi xafiiska safiirka Somaliland ee dalka Ingiriiska Ayaan Maxamuud waana gacan yaraha goowaad ee isla xafiiskaasi safiir Ayaan Maxamuud ay madaxda ka tahay Michael Wells ayaa emailkan aanu helay kala tashanaya maamulka ergada goobjoogayaasha arrinta Edribok waxa uu garowsan yahay tuunka laga qabo xiriirka uu la leeyahay xisbiga kulmiye
iyo in Edinburgh ka mid noqoshadiisa goobjoogayaashu ay walaaca laga qabo sii kordhin doonto. Wales haddana waxa uu ku adkaysanayaa in Edinburgh goobjooge wanaagsan noqon doono oo uu isagu ku talinayo in lagu soo daro goobjoogayaasha caalamiga ee doorashadaas. Sawirradan sida adinka muuqata toos ayaa madaxda goobjoogayaasha iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye isugu dhex milmeen. Ayaan Cashuur iyo Wasiir Sacad Cali Shire maalintii doorashada waxay goobjoogayaasha kala howlgaleen gobolka Saaxil. Maamulka xarunta dhaqanka iyo Hargeysa Book Fair madaxa goobjoogayaasha Mr Wells iyo haweeneyda Adriana ee goobjoogayaasha u qaabilsaneyd arrimaha logistigada iyaguna dharaartii doorashada waxay ka wada howlgalayeen oo ku sugnaayeen magaalada Hargeysa halka haweeneyda Itoobiyaanka magaceeda la yiraahdo Tracy iyo shakhsiyaad kale oo ka tirsan xarunta dhaqanka oo iyaguna shaqaale u ah Jaamac Muuse Jaamac iyo xaruntiisa dhaqanka ay goobjoogayaasha u sii kaxeeyeen magaalada Laascaanood. waxa intaasi sii dheeray Michael Wells wuxuu goobjoogayaasha haddana ku soo darsaday dad ajaanib oo toos ugu xidhnaa xarunta dhaqanka iyo Hargeysa Book Fair kuwaasi oo ka soo qayb galaya bandhigyadii Book Fair-ka tan iyo 2015. wuxuu kaloo ku soo darsaday hablo dhalinyaro ah oo Kenyaana. dhammaan cadaymaha baadigoob ee ku wajahan goobjoogayaasha ayaa ka maqraati kacaya ka dheeraanshaha dhexdhexaadnimada iyo sida wadajirka ee Michael Wells iyo jaalayaashiisa kulmiye ay dunida u wada indhasar caadiyeen. kaalinta aan la dafiri karin waxa musuqa magac dilay doorashadaasi ku lahaa dalada ururada aan dawliga ahayn Sonsof waxa madax ka ah wiil uu adeer u yahay murashixii doorashadaasi u tartamaya xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. waxa kaloo dalada Sonsof hoggaankeeda sare qayb ka ah koox kulmiye oo door weyn ka qaatay horumarinta iyo dhismaha xisbiga kulmiye. waxay sidoo kale daladaasi ku fashilmeen doorashadii golaha fulinta ee dhexdooda oo ahayd inay qabsadaan sanadii 2015 taasoo su'aal gelinaysa xalaalnimadooda. waxaa dadafeeyay oo si adag dhexdhexaadnimadooda u naqdiyay xisbiga wadani doorashada ka hor kalena noqday kalsoonidii. haddii aynu xusno waxa marag Madonna in xubnaha boardka Sonsof qaarkood ay ka tirsan yihiin golaha dhexe xisbiga kulmiye. xubnahaasi oo ay ka mid yihiin Chief Maxamed Cali Daalin waa xubin ka mid ah boardka Sonsof isla markaasina ah agaasimaha waaxda maamulka ee gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha waana mas'uul si weyn ugu ololeeya xisbiga uu xukuumaddiisa ka tirsan yahay. Axmed Xaashi Oday waa mas'uul sare oo ka mid ah boardka Sonsof waana xubin ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga kulmiye isla markaasina wuxuu ku jiraa komishanka xirfadlayaasha ee caafimaadka. hore wuxuu ahaa wasiirkii boosaha iyo isgaarsiinta ee xukuumaddii kulmiye Axmed Siilaanyo. mar kale sida aan Sonsof dhexdhexaad looguba nisbayn karin waxay gebi ahaanba baalmareen sida ku cad qodobada la raacaya terms of reference kuwaasi oo sabab u ahaa inay ku guulaysato mashruucii goobjoogayaasha gudaha. qodobadaasi oo ay ka mid ahaayeen inay sameeyaan dad si gaar ah uga shaqeeya arrinta goobjoogayaasha maxalliga ah task force kuwaasi oo aan ka yarayn 15 urur. waxay sheegeen in 15kaasi 6 ka mid ay ka soo jeedi doonaan xisbiyada qaranka isla markaasina 15 xubnood soo xuli doonaan dhammaanba goobjoogayaasha maxalliga ah. xisbiyada mucaaradka oo aan wax ka weydiinay arrintaasi waxay noo xaqiijiyeen in aanay ogeyn goob lagu soo xilay ergeda iyo wax lagu xushay toonna. annagu dee Sonsof waxba uma naandiranayn doorashadan inaga lama shaqeynaynin halkan ka taaganina de kama taagnayn. waxa intaasi ka sii daran inaanay jirin mar kaliya oo ay shireen oo isweydiiyeen sida hawsha loo galayo. kasakoo xubnaha xisbiyada ee 6 ah ururada qaybta ka ahaa oo aanu magacyadooda wada hayno ayaa qaar ka mid ah inoo cadeeyeen in aanay wax doora ku lahayn soo xulistii goobjoogayaasha maxalliga ah oo dhammaa 620 qof. baaritaanka baadigoob waxaanu soo taabanay in inta badan goobjoogayaasha Sonsof ay keenayeen odayaasha deegaanka iyo dad macrifad ama garasho loo doorbiday iyagoo kaarka goob ku galka ee qofku xidhanaya lagu sii ridayay agabka doorashada ee komishanka doorashooyinka iyaga iyo waliba labada xubnood ee gudoomiye ku-xigeenka komishanka ee goobta codbixinta iyo waliba calaamadiyaha taasoo ka dhigaysa inay Sonsof goobjoogayaasheedu ahaayeen qaar aan intooda badan la tababarin ama aan fahamsanayn mas'uuliyadda goobjooganimo. Sonsofna ka been sheegtay taasi. tuulo iyo degmooyinka badankooda goobjoogayaasha Sonsof ku magacaaban waxaa laga qaadanayay isla tuulada ama degmada. goobaha qaarkood goobjoogayaasha maxalliga ah ee Sonsof ku magacaaban heerka ay gaarsiisan aqoonta iyo sawirka ay shaqada goobjooganimo ka haysteen waxa ay gayaysiisay in sidii muraaqib xisbi ay shaqaalaha komishanka ee goobta kula murmaan codadka xisbiga kulmiye ee xumaada.
caqabadii ugu horeysay ee ugu la yaabka badan ugu cajiibsaneed waxay ahayd goobjoogihii maxalliga ahaa Sonsaf u fadhiyay goobta inuu kula murmayay dadka kula murmayay goobta joogay codkaasi ma xumaan kulmiye ha loogu tiriyo codkiisa tirada ha loogu daro uu kula murmayay oo dhowr jeer xataa goobta dhexdeeda isqabsi ka dhacay waayo isagoo xaq u lahayn gudoomiyahana waa loo sheegay xabashada warqadda xabashada waa lagu qoray oo waan u deeday commission oo way ka cabanayeen asxaabtu waxaan ku qornaa sanduuqa 79-1 bon 1 ayaan ku qornaa gudoomiye goobeed baan ahaa qofka hubiya ah oo khadeeya inta badan ahaa iyo gudoomiye ku-xigeenkana wax laga qaadanayay deegaanka waxa kale oo isaguna noo yimi in Sonsaf ka socdo oo isaguna deegaanka laga qaatay oo yiri nin deegaanka baan ahaa degmada bon ninkaasuna nala joogo Sonsafa marka de saddexda qof tuulada laga qaadanayay Sonsaf waxay emailkan oo aan helay u dirtay ururadii ay magaca iyo fadligooda ku qaadatay kharashka mashruuca goobjoogayaasha maxalliga emailkan waxa Sonsaf ku wargelinaysaa in maalinta doorashada ay yimaadaan xubnahaasi xaruntooda halkaasi oo Sonsaf sheegtay inay ku diyaarisay shaashado waaweyn oo saacad loogala soconayo xogaha goobjoogayaashu ka soo dirayaan goobaha codbixinta ee gobolada oo dhan qaar kamid ah xubnihii ururada emailkan loo diray oo aanu la kulanay waxay noo sheegeen inay subaxaasi tageen xarunta Sonsaf taasoo aan wax ka socday oo shaqo ahi jirin marka laga reebo bay yiraahdeen laba hablood oo dhalinyaro ah oo barta YouTube-ka wax ku daawanayay Sonsaf ballankaasina waa ka muuqatay Sonsaf kaliya ma ay ku kicin inay si iyo cadaalad darro ku jirto uga warbixiyeen xaaladihii jiray balse sida baadhitaanku muujinayo waxay ku tunteen dhaqankii wanaagsanaa Sonsaf oo aanu dhowr jeer isku daynay inay baadi goob hor yimaadaan lana xidhiidhnay si aanu u weydiino doorkii ay doorashada ku lahaayeen iyo khaladaadka ay galeen ee loo tirinayo email ayaan u dirnay taleefannana waa kula xidhiidhnay wax jawaabase kamaanu helin ma ahayn qaababka boobka doorashadu u dhacayay kuwa kama ah ee waxay ahaayeen shirqoollo isbarkan oo ku talagalkooda si weyn looga sii shaqeeyay waxyaabaha keenay inaanay bannaanka iman dhacdooyinkii boob ee dhacay dharaartii doorashada komishanka ayaa sabab u ahaa waxaa dharaartii doorashada ka horreysay khadka laga saaray baraha bulshadu ku xidhiidho Facebook, Twitter, WhatsApp, email, Snapchat, Fiverr iyo wax kastoo loo arkayay in shacabku ku soo gudbin karayeen khaladaadka aan dhanna loo aabayeelaynin iyadoo loogu sii gabanayo sababo afgobaadsi u muuqday oo odhanaya ammaanka ayay waxyeelaynayeen dunidu waxay markiiba ka qaylisay tallaabadii komishanku internetka ku baktiyey waxaana komishanka soo gaadhay dacwado ka dhana tallaabadaasi oo dunidu u arkaysay inay tahay tallaabo hiil u ah musuqmaasuq la huurinayo kama ay jawaabayn komishanku waxaa lagula soo hadlayay taleefanka dhegsa jalaquma ay siinayn way isqirsan yihiin in aanu aragnay wax la yiraahdo social media inuu ku hayo weerar culus doorashadii iyo komishankii iyo dadkii isdiiwaan gelinayay waxay nagu kaliftay markaa inaanu xidhno qolada CBJ waana la soo xiriireen waanu sharaxnay waxaan ku nidhi anagu danteedaan eeganaynaa muddo kooban baan iska qabanayna baadi goob iyana waxaynu ku jaleecaynaa gacan ku dhigistii hay'adaha dawladda state capture kasoo musuqa doorashada waxaa xisbiga kulmiye iyo xukuumadii markaasi talada haysay u adeegsadeen laamaha dawladda ciidamada sirdoonka booliska militariga garsoorka iyo ururada aan dawliga ahaynba sidii doorashadaasi boobkeeda loo xalaaleyn lahaa taasoo aynu ku macnayn karno waxa afka qalaad loogu yeedho state capture doorashada ka hor waxaa xisbiga kulmiye ee talada hayaa uu bedelay janankii ciidanka inkastoo uu hayb ahaan ku dhawaa murashaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haddana wuxuu ahaa shakhsi loo arkayay inuu dhexdhexaad noqon karo sababo badan awgood waxa iyana la bedelay saraakiisha kala taliyihii hawlaha ciidamada booliska gaashaan la sare ducaale iyo janankii hawlgalinta ciidamada qaranka sareeya guuto dabagale kuwaasi oo iyagana kasoo hayb wadaaga murashixii xisbiga wadani haddana iyagana loo arkayay inay sida jaranaal shaqaale oo kale dhexdhexaad ka noqon karayeen doorashadii dalka ka dhacday
intaasi beddelkooda waxaa timi in si toos ah ay adeegayaal dhinac ah doorashada uga noqdaan taliyayaasha ciidamada booliska qaranka iyo sirdoonkuba xilligii ololaha doorashada waxaa soo baxay xubno ka mid ah garsoorka Soomaaliland oo lagu arkayay iyagoo si toos ah fagaarayaasha baratanka ugu ololeynaya xisbiga kulmiye hase yeeshee midda ugu daran ee dad badan isweydiinayaan ayaa ah maxaa xisbiga wadani u aqbalay doorashadii oo ay u qaadici waayeen xisbiga wadani waxa uu banaanaa inuu qaadaco doorashada oo ka sakow dhiig daata iyo dad dhintaba uu ku khasbanaa inuu dacwad kadib u gudbiyo maxkamadda sare ee dalka taasoo ka dhignay eelka kii dhigay uu ergootay waxaa laga wada dheregsanaa maxkamadda sare kaalintii ay ka ciyaartay in murashixii xisbiga mucaaradka ahaa ee ucud laga leexiyo tartanka maadaama uu halis ku ahaa murashaxa kulmiye marka laga eego dhinacyo badan waxa mucaaradka gaar ahaan wadani uu muujiyay in aanu wax kalsooni ah ku qabin garsoorka maxkamadda sare sidaas daraadeed ayay maxkamadda sare ee Soomaaliland u ahayd xisbiga wadani meel aanu laabtay indhaha toona siin karaynin oo ku kaliftay inay aqbalaan natiijadii ka fogeyd caqliga fayo waxaana mucaaradku hayay xogo xasaasi ah oo ah in gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan aadan xaaji cali guure iyo galab carrowba uu xubno badan si shakhsi ah uga howlgelayay sidii uu kulmiye uga dhigi lahaa isagoo mas'uuliyiin badan oo diidanaa murashaxnimada Muuse Biixi Cabdi uu gudoomiyaha maxkamadda sare isu soo jiiday waqtigii ololaha doorashada ee dad kala jiidadka lagu jiray waxaa xaqiijinidin ku filan dhammaanba mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda ciidamada ururada bulshada rayidka iyo garsoorkaba oo ka qayb qaatay boobkii banaa ee doorashadaasi loo geystay waxa gaargaar iyo guud ahaanba siyaabo kala duwan oo abaalmariyay murashixii doorashadaasi loo boobay waxaana dadkaasi ka mid ahaa garyaqaankii xeerarka doorashooyinka u qaabilsanaa komishanka oo loo magacaabay madaxa lacagta adag ee wasaaradda maaliyadda injineer Xuseen Ibraahim Buuni oo ka tirsanaa dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof oo loo magacaabay isna wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta tiraba 5 taliya degmo oo ay ka mid yihiin degmooyinka Qoryaale iyo Lughaya ayaa iyana la dalacsiiyay kuwaas oo si qaawan dharaartii doorashada kulmiye u gacansiiyay waxa isna la dalacsiiyay natiijada doorashada kadib jarankii ciidamada booliska oo hore u ahaa sareeyo guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan lagana dhigay sareeyo gaas walow ay toos ula wada safteen taliyayaasha ciidamada booliska militariga iyo sirdoonkuba xisbiga kulmiye haddana waxaanu baaritaanka ku ogaanay in taliyaha boolisku adeegsiga ciidamada ammaanka ka soo uu si cad oo aan gabasho lahayn ugu takrifalay awoodii dawladnimo uguna adeegay xisbil xaakimka balse kaliya aanu ka bixin dhexdhexaadnimadii abaalmarinta waxa qayb ka ah inay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ka sii mid ahaadaan taliyayaasha sirdoonka iyo militariga maxkamadda sare iyo mas'uuliyiin kaleba halka xogaha kale ay tibaaxayaan in madaxa mashaariicda xarunta dhaqanka iyo Hargeysa Book Fair Jaamac Muuse Jaamac isna haysto ballanqaad buuxa oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee bedeli doona wasiirka haatan Saacad Cali Shire hadal haama lagama buuxshay nuxurka socdaalkii iyo baadhitaankii qaatay muddada ku dhow 5 bilood ee aanu ku tagnay dhammaanba gobolada dalka isla markaasina sida aad ku daawateen baadi goob aan waraysanay dadkii sida tooska ahaa ula kulmay ama indhahooda ka qaaday dhacdooyinka murugta lahaa ee boobkii doorashada 2017 waxaanu ku soo afmeeraynaa qodobo kooban 2017 doorashadii ka dhacday dalka sinaba umay ahayn mid xor iyo xalaal loogu yeeri karo waxa dhacay boob farsamaysan oo ay gacan ka geysteen ciido kala duwan oo dana kala jaajaada ka lahaa natiijada soo baxaysa waxa aan xaqiijinay in gudada doorashooyinku ay gacan weyn ka geysteen siyaabo kala duwan wixii dhacay kuwaasi oo argagax wada leh sidaas daawanayseen isla markaasina aanay daacad iyo dhaxdhaxaad ka ahayn doorashadii qabsoontay ha ugu daraato baalmarista shuruucda doorashooyinka oo ay marmarsiiyo la aqbalay u raadiyeen inay arrimahaasi dhacaan in waraaqihii lagu codeynayay la dhimay security featureski ay lahaayeen bishii July iyadoo aan xisbiyada mucaaradku ogeyn in qandaraaska waraaqaha la siiyay cid dhinaca oo horena ugu soo ceebowday dalal kale taasi oo komishanku ceebtiisa lahaa in kaararkii doorashada iyo indhaqaadistii malaayiinta dollar ay ku baxday ay noqotay waxaan doorashada lagu galin ama halbacaad lagu dhisay in ka hor doorashada kaararkii dadkii abaaraha ka soo noqday ee codbixinta iyo buwaag xad dhaafa la qaybiyay
in qaladaad u muuqday dabiici ay ahaayeen dhagar laga sii shaqeeyay in si loo xalaaleeyo doorashada si farshaxanimo ah looga howlgalo cidda doorashadan ka warbixinaysa sida goobjoogayaashii iyo hay-adihii loo yaqaanay bulshada rayidka ah in awooddii garsoorka ee ka qarniqi lahayd iyo ciidamadii nabadgelyada inteeda badan loogu shaqaystay inay noqdaan kuwo aan dhex ahayn isla markaasina ku soo ooday kuna qasabtay laba daran mid dooro xisbigii ugu tunka weynaa ee mucaaradka lana saadaalinayay inuu doorashadaasi ku guulaysan doono natiijada doorashadii 2017 ee madaxtooyada Soomaaliland waxay noqotay midho daray duuduub ayaa lagu liqaa hase yeeshee waxa biyo kama dhibcaana in weli bulshada codkoodii sidaasi loo galay ay dhagahooda ka baxayso heestii ahayd I